بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما خيارتي وضياش وأنا سود ويننا وأنا كسود ويننا سي قلب فرن أو ناكسن لما أنت وحنا كبر أحسن على السيدة عاد أصو أقبشين فرتينتي أنت مد invitation كها بقولك بقولادي أدبنا وما سنتين لما أنت برنامج كنا وحويان وبرنامج empowermentية ويسوق مقابسي هيئدان ماشي كنت الله اللي يرادو دفاعها حقوق البيرة الهوبسي أو يدك اللي قتل بدنيا هي إيوه وحق السيدة سكر سوق مقابي سومالي أوبوس ماشي أنا يقول نقرأ فديان تيلو إيوه ركبة نوكلو ماشي فديان وحق ما أنت مرتين نوعه وخطبة إنه جوين أن كسو قادرين إنه قدوميها حقوق دتك الهيب سوعة دكتور أبشر ورسامة جامع وأصله ما أنت نوع قرن خطبة جوين ماشان كذا عيسى نين أتقنان وحقوق دبعانتي أسو هالجميع سيد دتك عن حقوق الهيب سوعة حقوق ذا وجار العين سيد أسكال أيضا وحنا مرتاح بروفيسور أصلا سوم كان علاقة بجلدونا واللي هذا بروفيسور محمد ماي أو ماتيريال لور شابل يونيفرسيتي head of ملاك and my cooperative سيدا سكر أصلا وحا مرتين نقندونا دكتور حسين عبد الله وداد وأصله قراء الصومالي بين ماتيريال دينا اسكندنافيانك وأصلا مرتين نقندونا سومكا هدو إلهي يرادو waxaa ayada nala jooga sidaas oo kale Professor Cabdiqaadir Ismaan Faarax oo taqaanaa oo Olb University wax ka dhiga asna marti codka ku leh waxa sidaas oo kale asna nala jooga Dr. Ahmed Jibriil oo asna aqoonyahan haddana xaquuq dhabaantii PhD-giisii haddaba xirtay oo maaragtay asna aan aad u soo dhaweynayno oo garabkay fadhiya sidaas kale Teelow ayaa macallin Teelow asna meesha ka hadli doona برنامجنا ساس ودي دونا هدول هاي يرادو وحنا مركب وارث كسر وين يتلو عطك بسم الله الرحمن الرحيم أنا يوم بقى عيقو على عبد الرحمن تلو كل دمان أنت ماشى تمت كل يوم وصل غانا أنا يقول كهلا مجا أوركا أو الصومالي وحنا ماشى فرحة إياه إنان maanta inoo suurta gasho workshopkan aan qabano oo aan u qabano walaalkeen Abshir idinkana sida wanaagsan aad u soo ajibteen aad u timaadeen aad iyo aad ugu mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inuu noo noqdo kulan aad u qiimo qaaya leh oo aan kulligeema kala macnaha aan wax kala faa'iideysano waa mahadsantihiin macallin aad iyo aad baa u mahadsantahay hilmaan hadal kuma jiro waxaa iloobay kulmiye oo meesha noo soo gabagabayn doona oo asna sida ogsoontiin qoraaga magaaladan August wariye weyn oo magaaladan August shaqooyin aad iyo aad u ballaaran ka qabta waana nin si frivilly ku shaqeeya oo bulshada wax weyn u haya isaguna hadda wuxuu noo soo gabagabayn doonaa hadallada meeshan ka dhaca ayuu noo soo aruurin doonaa marka ilma hadal kuma jiro kulmiye adiguna walaal soo dhaw waxaan hadda u wareejinayaa Professor Cabdiqaadir Ismaan Faarax oo kelmadiisa meeshan naga siin doona بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته odayaasha soo xilqaamay oo waqtigan sabti oo maaragtay fasax lagu jiro noo yimid oo barnaamijka soo qayb galay waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa markii ugu horeysay inaan u mahad celiyo dadka barnaamijkan soo abaabulay odayaasha halkan fadhiya Mahad Ahmed Jibriil Teelow gudoomiye uu kamid yahay raggaas oo maaragtay maalmahan oo dhan shaqeynayay inay maaragtay workshopkan inuu si fiican nooga dhaco waxaa kaloo mahad mudan rag adiga nus saac kadib meelaha ama saacad noo keeni doona refreshment yani waxay noo ballan qaadeen inay noo keenaan refreshment waa rag odayaal Cabdi Xasan iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Askar oo raggaas oo muddo dheer magaaladan oo nimanka ganacsatada waxay sameeyaan mar kasta oo aan sameynayno workshop bulshada faa'iido u leh waxay noo sameeyaan ayaga maaragtay keena refreshment
micnaha dhaqaalahooda ay u isticmaalaan marka raggaasna waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa oo mahad weyn leh ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Matoto oo maaragtay technicality-ga meesha hadda gacan weyn ka geystay marka u horeysana ma ah Matoto waa nin jaaliyada waxyaabo badan u qabta idaacado iyo telefishin ka shaqeeya sida gudoomiye kale gudoomiyana wuxuu leeyahay isagana meel TV marka raggaas oo dhan waa mahadsan yihiin waxa kale oo mahad gaar mudan oo nala jooga professor Maxamed Maye oo saaka wuxuu kacay afarti ma ku jira khadka odag oo ka baxay odayaasha waxa dhamaaday meetingkii hore mar u cusboonaysiiha u cusboonaysiiyo odayaasha marka professorada waa mahadsan yihiin marka professor Maye jaamacadda la yiraahdo Shabeellada Hoose buu professor ka yahay marka waa ragii hore mutacalimiinta Soomaalida ahaa dad badan oo noocaas oo kale lama joogaan oo abshir oo kale ah iyo asaga iyo marka waa dad ah marka waa inaan dhaqaaleysanaa oo maaragtay aan ka warqabnaa marka Dr. Xuseen Cabdulle Wadaad oo taariikh dheer leh anaga markaan ciyaalka ahayn xidigta October buu maqaalo waaweyn ku qori jiray marka qoraa abwaan publisher يعني حسين وداد حسين هذا وحود معركة الدعوة بواق مركا واني شقة وين قرن وسوق قبتي بالشدة الصوماليات وقبتي مركا بروفيسور هذا مكتير يعني مغلايا يعني هذا الكيك مغلا وجعلان له مركا على أي حال سود هذا إن أنا يوم مهد يركل أو كجرو بوحنا كلنا إسطنبول مقالة ليرات إسطنبول مقالة هذا كلنا مركا وحنا سأركني ندل يرى وعلم بارا وصوماليا نتجا مرة بدن marka wuxuu yiri maanta ninka reer Soomaaliya inuu iska celiyo Soomaalida waa inuu leeyahay laba arrimood waa inuu leeyahay tol weyn oo waliba tolkiisa waa inuu yahay tol tun weyn I don't know wuxuu ka wadaa macnaha tol ballaaran buu ka wadaa midda kale oo labaad oo laga rabo qofka raba inuu Soomaaliya ku noolaado joogo maanta waa inuu leeyahay waa inuu geesi yahay indha adeeg waa inuu xoog iyo indha adeeg iyo waa inuu wixii soo dhaxsan kara marka wadankeeni labadaas maanta waqtiga xaadirka waqtiyadu way isbedelaan moogta labadaas ka socda marka waa yaabnay anag marka waxaan niri wallahi meesha tol tun weyn looga baahan yahay iyo nin macaangiga ah oo wixii soo dhaxsanay meeshaas waa meel aniga mahad academic iyo waxa ku jira meel aan ka bixi karno ma marka waxaan u maleynayaa wax cusub laakiin wax cusub ma يعني ما لا سعتان wax walba anaga hadda aan u maleeyno wax cusub waxa laga helaa suugaanta Soomaalida iyo dhaqanka Soomaalida dib ugu laabto waa ka helaysa marka dib aan ugu laabanay maahmaahayihii yaa ku waxaan ka helnay يعني mid la yiraahdo faqih tolki kama jannato faqih Soomaalida waxay tiraa tolki kama jannato may faqih bal ayaga carabiga ka soo amahdeen Soomaalida faqih u bixis laakiin kelmadda waa kelmad faqih bal faqih معناها وانين aqoonyahana oo diinta yaqaana oo wax yaqaana marka Soomaalida fiqh ka dhigtay waana af Carabiga waxa lagu yiraahdaa faqih macnaha waanin diinta yaqaana oo sharciga yaqaan tolki kama jannatago macnaha waxa laga wadaa faqiha maaliisa soo maro wuxuu rabaa sheego aqoonta doon ha wato maalin dambe tolkiisa la dagay macnaha tolkiisa ka xog badanay macnaha waxa laga wadaa tolkaada waa okay in laga baxo lama ogola laakiin tolnimada nin kale oo caalim ah oo Emil Durkheim leeyahay baabaray moogta wuxuu soo ogaaday waxyaabahan dadkan ka dhalatay ilaa dalka adiga ka dhalatay maadan dooran ma socotaa waa ku dhalatay marka wuxuu yiri hadii aad dhex gashid waxa ku jiro yiri marka dhex gashid oo la isu yimaado waxa moodaa sida electric oo kale jirkaada inuu electric galo kale marka waa jadboonaysaa yiri waa bururaysa marka waxa ku kacay shucuur waxa ku kacay tolnimadaas ah marka waxa dhacayso yiri waa cilmi baaris uu sameeyay wuxuu yiri tolka marka ku dhex jirtid maskaxda way tagaysa aqliga iyo maskaxda ma joogay marka waxa dhacay dad adiga iyo tolka ku dhex jirtid hadii aan maskaxda la isticmaalin wax alla wixii idin ka hor yimaado gidaar haduu yahay waa dardaraysa marka tolnimadaas marka waxa laga wadaa waa tolnimada biologiga ah oo kulligeen aan ku wada dhalanay diinteena saa ula socotaa waa nooga digtay wandir ashiratak al-aqrabin diinteena wala socotaa waxay ku leedahay tolka iskala soco laakiin iska ilaali wandir ashiratak al-aqrabin inna akramakum inda Allahi atqakum diinta waa fiirin kartaa marka waxa loo baahan yahay marka tolka in lagu xiro faqih qofka aqoonyahanka iyo ulul albaab iyo marka hadaa aragtaan tol meel jooga oo dad cilmi leh aysan ku jirin waa halaag ba ka soo socda marka waxa loo baahan yahay xeer halku dhikala jira oo asagana leh يعني tol xeer leh ma cayroobo ma maqasheen taas tol xeer leh
معيروبة وكونستيوشن إيه علمي معناها تلك مركو كسر مسكح لبعض ما جاريس على أي حال سومالي ذا سوغان تذا يوحنا مالنا إنه معنى لهين لكن نما يهو دونك هذا وحاك السعودة طلنا ما كسعودة ترامب واتقنا ترامب وحرورسنا وتلكيس دنمارك ولا سعودان حزبية العنصريين تاتو حيكوجنا وطل يعني وطبعا هذا أن جونا رجال بيتك وحضارة كوجوري وحب اللعبان وحب اللعبان إنيسن دقيسن إكسبرتس تذكر أقوان تلين إنيسن مركا أدونك بروس على دين تل لماذا مركا سمعنا وحلاقي أنا كمان سن كهر نشجعن فقيه تلقي كما جنته مركا وحلوبة هي إن معركتي إن علم الوسع أوكي أبشر بأن الجو جمانته هذا الكوين أساق أسكله إن هذا الكل مربو لكن أبشر وحرب إن دردارن كاتوش شيء كل وانين تلقي يقومية تكاد أوليس كتري وانين وجرا إنه حقوق الراديو وكوس حسين لكن at the same time أبشر واتقنا وانين جامعة كسب بحي إلا أفرشن لغة كهلا مركا وانين سو شقي سومالي كسو شقي مركا أنا مركا وحندي الحين تلك هذا كجر حقوق الرادي لكن وإنه سنقن تلك هذا اللي يري تونكي سوا وين هاي ووحي كوري ماذا ودل مرة وإنه نقول تل مسكحي علم كسعودة مركا كل إنتسان وأنا كحما أنا كل ريء هذه أد بروفيسور وما سنتهي سيدو ناكسن أد نوجسو جيسي خطبة هذا نوحنا نوجسو دوين يا بروفيسور أبشر ورسام الجامعة أو أستغل مانتي مهمة كواد ميشان كله أبشر ولا رسولو شو برنامجنا في إنجليزي ولا في سومالي أبشر وحول جعلناها برنامج كأنه أنت يرتاح خطبين أيه أي نقطة لغة إنجليزية ما دام لقد دوبيه إن شاء الله كل هذا الصومالي أنا واحد دونا بسم الله الرحمن الرحيم the name of God the gracious and the merciful I'm Abshir Warsame Jama former professor at Somali National University Faculty of Law magacayga waxa la yiraahdaa I'm Dr. Abshir Warsame Jama waxaan ka mid ahaa professoradii hore ee jaamacadda Gahir Somali National University I'm in Denmark for almost 10 years. I have experience from working with the international and humanitarian organization. waxaan la soo shaqeeyay waayo aragnimo aan u leeyahay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa bani aadamnimada ayaan la soo shaqeeyay. I have been journalist and interpreter. waxaan ahay journalist waxaan ahay interpreter يعني أفعلية واحد شرط interpreter iyo translator أنا waxaan ahay dadka markay hadlayaan dadka ka tarjuma interpreter baa la yiraahdaa kan waxa qorana waxa la yiraahdaa kan waxa qorana waxa la yiraahdaa translator I have been a journalist and interpreter and currently haatan I'm the chair waxaan ahay madaxa waxaan ahay gudoomiyaha madaxa hay-adda Soomaaliyeed ee caalamiga ah ee difaacda xuquuqda beelaha la haybsooco dadka laga tira badan yahay braving of the organization xog gaaban ee ku saabsan ururka Somali International Minority and Marginalized Rights ururka caalamiga ee difaaca xuquuqda beelaha la haybsooco dadka laga tira badan yahay is this organization is created waxa loo abuuray to protect and promote inuu ilaaliyo human rights xuquuqda bani aadamka inuu ilaaliyo independently wuxuuna ka madax bannaan yahay free from political partnership wuxuu ka madax bannaan yahay wax kasta oo siyaasadda ayuu ururkan ka madax bannaan yahay ama wax kasta ku saabsan loolanka siyaasadeed and it is a non-profit organization waana urur aan u taagnayn inuu dhaqaale raadiyo the organization tries to be voice of the voiceless ururkan waa ururka u dooda una hadla dadka aan codko lahayn ama dadka codkoodu meel sare uusan gaari karin brief of the organization of Somali International Minority and Marginal xog gaaban ee ku saabsan ururka Soomaaliyeed ee difaaca xuquuqda beelaha la haybsooco at the beginning bilowgii I made ujeedadaydu waxay ahayd
5 years project mashruuc ku saabsan muddo 5 sanadooda inuu barnaamijkan uu shaqeeyo midaasoo ah the scholarship will flow fair objective selective methods okay ururkan waxa weeye waa urur waxbarasho oo sugan saldhigiisuna uu yahay in la doorto manhajka saxda ah ee waxbarashada ama aqoonta we give opportunities waxaanu magaranaysaa fursad siinayna to Somali girls gabdhaha Soomaaliyeed and those who are physically disabled gabdhaha Soomaaliyeed iyo dadka jir ahaan iyo dadka xagga jirka disabledka dadka xagga magaranaysa jir ahaan aan waxba qabsan karin we have so far created waxaanu abuurnay network ayaanu abuurnay for the students oo aanu u abuurnay ardayda network isku xira for the students ardayda aanu u diyaarinay at the refugee students campus in East Africa waxaanu u diyaarinay hab isku xiraansha ardayda ku jira xeryaha qaxootiga campus in the East Africa ee bariga Afrika ku jira marka ardaydaas waxaanu u samaynay arday kasta ee ku jira xeryaha qaxootiga mesela waxaan soo qaadanaynaa Kenya xeryaha qaxootiga Kakuma Ifa ama xagar dheer ardayga haysta shahaado dugsi sare oo genuine ah haysta oo Soomaaliga ah ama ku dhashay xeryaha qaxootiga ardaygaas in waxbarasho laga siiyo wadamada ay joogaan ee qaxootiga ah sida Kenya Tanzania Uganda iyo Rwanda as well as all African countries iyo wadamada Afrika ardaygaas haddii uu haysto genuine certificate secondary school uu haysto shahaado dugsi sare haddii uu haysto ardaygaas okay in addition of that intaas waxaanu ku daraynaa we play special attention to the students of the refugee campus waxaanu intaas aanu ku daraynaa yani ardayda yani xeryahaas qaxootiga ku jira in ay helaan access to scholarship in ay helaan networkgana waxaanu magaranaysaa la xiriirinaynaa hay'adaha caalamiga ah ee xagga waxbarashada bixiya in loo ogolaado ardaydaas ku jira xeryaha qaxootiga ee bariga Afrika empowerment project proposal xoojinta ama tayeenta mashruucan ururkan ku saabsan we believe that the education of Somali marginalized and the minority rights waxaanu aaminsanahay waxbarashada beelaha la haybsocay dadka laga tira badan yahay subject saldhigeedu inuu yahay human rights important inay tahay xuquuqda bani aadamka ee lagama maarmaanka ah we further suggestion waxaanu talo ku soo jeedinaynaa we should together ask the world waxaanu si wada jira u weydiisanaynaa the world adduunka especially United Nations gaar ahaan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa to support in ay taageerto our activity dadaalka yaga and we also suggestion waxaanu hadana talo ku soo jeedinaynaa the NIDA organization to support our case the NIDA organization waxa weeye waa guddiga caalamiga ah ee dalka Denmark ee arrimaha bani aadamnimada u qaabilsan in ay taageeraan yani dadaalka yaga and we also request hadana waxaanu weydiisanaynaa DRC Danish Refugee Council guddiga qaxootiga caalamiga ah to support guddiga qaxootiga caalamiga ee dalka Denmark to support inay taageeraan our activity dadaaladayada inay taageeraan we also suggestion waxaanu talo ku soo jeedinaynaa sidoo kale talo ku soo jeedinaynaa in general good ahaan to coordinate and collaborate in magaranaysaa la isku xiro and collaboration ayna dadaal ku bixiyaan oo efforts in the future coming mustaqbalka and we invite hadana an casumayna hay'adda la yiraahdo UNESCO waxa weeye waa hay'adda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee u qaabilsan xagga dhaqanka iyo waxbarashada waxa weeye education and culture jamciyadda multilateral international institution to join us hay'adaasoo waxyaabo badan oo kala duwan ka qabata adduunyada hareeraheeda future planet active of Somali
international minority mustaqbalka qorshaha dadaalka ee ururka Soomaaliyeed ururka Soomaaliyeed ee difaaca xuquuqda beelaha la haybsocday we will also the future invite waxaanu mustaqbalka aanu casumayna UNDG United Nations Development Group for International Students so they support marginalized communities waxaanu casumaynaa hay-adda loo yaqaano UNDG waxa weeye waa hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee horumarinta xagga waxbarashada maxay la ardayda waxbarashada aanu raadinayno waxa la yiraahdaa ardayda caalamiga ah waxa weeye waa international student so they support in ay taageeraan the marginalized community beelaha la haybsooco in ay taageeraan the idea fikradu waxa weeye to propose inaanu tayayno brain feeding education waxa la yiraahdaa waxa weeye waa maskaxda quudinta cilmiga ayaa waxa la yiraahdaa brain feeding education marka brain feeding education will intend to foster and grow the mind in maskaxda kor loo soo qaado si dadkaas ay wax u bartaan for the younger people ee dhalinyarada marginalized community ee beelaha la haybsooco iyo dadka laga tirabadaya si ay wax u bartaan okay the concrete aim يعني talada sugan waxa weeye to provide in aanu siino 150 secondary school graduate students annual scholarship in aanu 150 arday waxbarasho aanu siino يعني sanad walba ardaydaas oo aanu siino scholarship in aanu siino waxbarasho marka the scholarship will be divided wuxuu u qaybsamaa يعني 150 ka saddex qaybood baan u qaybin we have divided into three categories saddexda qaybood oo aanu u bartay waxa weeye maadaama 150 waxaanu siinay students marginalized community ardayda beelaha la haybsooco 50 waxa iska leh students orphanage ardayda ma garanaysa agoonta ayaa iska leh kontonna waxa iska leh defenders of Somali minority and marginal dadka activists oo difaacayaasha xuquuqda beelaha la haybsooco kontonna iyaga ay iska leeyeen waxa weeye waa defenders of Somali minority and marginalized community kuwa difaaca okay future planned activity for Somali international minority يعني qorshaha ma garanaysaa qorshaha dadaalka ee Somali international minority and marginalized rights ururka caalamiga ee difaaca xuquuqda beelaha la haybsooco wax qabadkiisa we will also sida daraadeed the future invite waxaanu casumaynaa tan horaan u sheegay just go ahead marba inaan ku soo celi koruga soco هروس عواشها مدان بقولي كنتم كأرضي okay for this مقرنسا 150 students وأيدين شيء we have divided بالك لا we have divided ما okay اوكي سنه دي شقه بقول يا كنتم كاردي وسيده انو قيبناي waxaanu nir magarnaysa boqol konton waxa iskale Somali marginalized community beelaha la soo kontona waxa iskale students orphanage ilmaha agoonta kontona waxa iskale defenders of Somali minority and marginalized rights dadka difaaca xuquuqda beelaha la haybsocay dadka laga tiray maxay dadka difaacayaasha idinka ayaa kamid ah qofkii ururkayga ku soo beeray he will become a human rights wuxuu noqonayaa difaacayaasha xuquuqda beelaha la haybsooco maxay qofkan wuxuu leeyahay adeer ma garanaysaa anigu dadkan baan difaaca human rights activist dulmiga adwadid jooja ayuu leeyahay maxay xaq uma leeyahay dadkan inaad ma garanaysaa aad dulanteed ma garanaysaa maxay النبي عليه الصلاة والسلام وحيري من رأى منكم منكرا قفك أرك وحن فليغير بيده عنتي ساكبدل فإن لم يستطع دو أودي واينا فباللسان عربك ساكبدل فإن لم يستطع دو أودي واينا فبقلبه قلبك ساككادو أو هكنوع أضعف الإيمان ومش إيمانك أقصر أقوها الصيصة أوكي على كل حال مركز سيدس أيان أقايبناي أوكي additional cultural strategies of Somali my additional strategy my additional strategy مش شيء يدا يسار additional strategy كهوري
Okay. Additional strategic cultural of Somali minority and marginalized rights. waxa weeye yani waxaanu ku soo biirinay ma garanaysaa yani waxaanu ku soo biirinay dhaqanka istiraatiijiyada oo Soomaalidu ay leeyihiin. Soomaalidu waxay leeyihiin dhaqan qaasa oo istiraatiijiya oo ay ku dhaqmaan. Marka dhaqanka noocaasa yani wuxuu yahay we plan waxa qorshaheedu ku jirta Somali Academy and Culture and culture and literature in aanu magaranaysa aanu yani inaanu saldhig u sameeyno yani akademiyada dhaqanka iyo dhaqanka iyo suugaanta in aanu furno si dhalinyarada Soomaaliyeed yani aanu u soo bandhigno magaranaysa talentigooda magaranaysa xagga gabayga xagga magaranaysa suugaanta waxyaabaha magaranaysa ilmuhu magaranaysa dhalinyaradu ay magaranaysa u baahan yihiin oo dhan maxaa yeelay aanu hadana cazino dadka magaranaysa talentiga magaranaysa sida Allah u naxariistay magaranaysa Maxamed Warsame Hadraawi oo kale iyo dadka kale magaranaysa oo suugaanta iyo dhaqanka yani saldhiga u ah si magaranaysa ay u baraarujiyaan dhalinyarada. Okay, in addition of that waxaanu ku soo kordhinay we plan train Somali journalists. Barnaamijka waxa ku jirta in dhalinyarada magaranaysa Soomaaliyeed ee journalistiyaasha ah in magaranaysa aanu u furno training tababar inaanu u furno maxaa yeelay journalistiyaal badan ayaa soo baxay oo aan xagga saxaafadda aqoon aan u lahayn. maxay la markaad waxa soo baxday nin ma garanaysa mataqana hilbilaahay hilib jarjari jiro mindi haysta oo mindida intuu iska dhigam garsa qalin intuu qaatay journalist ana it is unacceptable wax la qaadan kara ma aha. For anyhow ala kulli hal okay, we thank you for all waxaanu mahad idinka celinayna. Okay, and we hope you will support waxaan rajaynaynaa inaad taageertaan in our plan yani qorshahayaga and our strategy qorshahayaga iyo magaraysa istiraatiijiyada inaad taageertaan ayaanu magaranaysaa aanu rajaynaynaa. Okay, we hope waxaanu rajaynaynaa to support sidoo kale particularly we need magaranaysaa we need for your support waana u baahanahay magaranaysaa taageeradiina yani min kasto ay tahay. waa mahadsantii intaasaan ku soo gabagabaynaynaa. دكتور أبشر ورسام الجامعة عاد بو مهتسين هاي حقيقي برنامج كيس قروح بدن وهالك أنه وسوي كذي وأنا برنامج مستقبل له وهدي أنا وردن عن قرب استعجنه برشة عن هذا نجورك يو دقن كحون سومالي كده احترا له فوقه هدي عن مرة بأنه عن حر استعجنه وعن تاجرنه وعن أوركان عنه كعاونه وواحد مر له جاري كره وأنا واحد ما عرفت مستقبل كل جاري دونه إن شاء الله هذا واحد قصده ويننا أحمد جبريل مطعم أو أصلا ما يشعر كله مركو نور لما يدغيغ دي ربو سابان قرينا أو أنكو حرد دونه لبدا بروفيسوركا iyo macalinka wadaad oo ayagana suumka nagala soo qayb gali doona balse hadda Ahmed Jibriil baan ku hormaraynaa wax badan kuma daraan ma dheeraanahay insha Allah good waqti fiican baa haysanaa marka iyagana waa sheegi karaan intaas aad baa u mahadsantihiin ka soo qayb galka khiyaarta timid oo meesha fadhisa waxaan kaloo mahad celinayaa sidii dadkii hore ay sameeyeen kuwii khiyaarta soo qaban qaabsay kulankan qiimaha leh oo mowduuca muhiimka ka hadlaya waa arrin muhiim ah in la helo wacyigelin ku aadan runtii arrintan oo ka mid ah dhibaatooyinka Soomaalida haysta si fiican buu sameeyay ninka la yiraahdo maxaa la dhahaa Dr. Abshir ururkan markuu sameeyay laakiin wali wax badan baa maqan markii la fiiriyo hadda barnaamijka hadda uu sheegay waxa u malaysaa barnaamij meel focus saaray aan inaga hadda aad inoo khuseyn laakiin meelaha la doonayo in laga financial gareeyo ama waxyaalaha la midka ah in la helo sida amaaragtay oo kale scholarship ka hadda oo kale la sheegayo kale in loo sameeyo maxaa la fundraising oo hay'adahan oo kale to uu la hadlayay director uu la hadlayay wax loogu sheego waxa ku fiicnaan lahayd meeting noocaas oo kale inuu la kulmo hay'adahan Denmark sida kuwa joogo hadda u magacaabay oo ay kamid yihiin DRC iyo Danida oo kale oo iyagana hoostay innaga
dhexdeena maxaa advocate qofka markuu advocate garanayo ama maaragtay arrimahan oo kale ka hadlayo waxa loo baahan yahay wacyigelin ballaaran hadda waxaa laga dhawaajiyey in dad la marginalization lagu sameeyo oo la hayb sooco oo maaragtay takooro aan markii la fiiriyo general ummadda Soomaaliyeed oo islaam muslimiin ah isku luqad ah isku deegaan ah wax badan aan kala duwanayn isku dhaqan ah faquuq imaaday meeshaas arrintaas waxay sababtay in inagoo dhan layna faquuqo Soomaalida waxa waaye marka adduunka loo fiiriyo sumcad badan kuma leeyahay waa saas faquuq soo ma noqonayso qayb kamid ah aniga khalad ka fahmay adduunka marka la fiiriyo sumcad kuma leeyahay waxa la inagu yaqaanaa waxyaalo aynu ka faani jireen markaynu asalkii Soomaalida ahayn oo dadkeena dhowrsan jiray oo dhaqanka wanaagsan waxa kamid ah international tuugsi wax la yiraahdo had soo baxay in aynu meeshaynu tagno ama qaxooti nahay ama lacagna siiye leenahay oo tuugsanayno inagoo ilaahayna siiyey maskax dhulka adduunka ugu qanisan dad aqoon leh xataa ay naga buuxaan dhexdeena haddana waxa moodaa inaynu iska soo hormarinayno ama ayna horkacayaan dad sumcadeena inaga dilaayo markaynu naga dhexdeena isliidnay general caam ahaan waxaanu noqonay ummad liidan kulligeed marka waxa loo baahan yahay marka koowaad in la helo ama hoos ha noqoto hal qabiil ama Soomaalida guud ha noqoto kalsooni in la helo qofku inuu ku kalsoon yahay inuu yahay qof bini aadana marka koowaad inuu wax badan ummado badan dheer yahay oo yahay islaam haysto diinta maaragtay ugu fiican oo maaragtay xaniifka uu haysto in uu ku dhashay 9 bilood si kan kale uu 9 bilood ugu dhashay markii kalsoonidaas imaato waxa imaanayso qofku inuusan qof kale oo walaalkiisa uusan u arkin nin ka daciifsan isagiina markaas loo arkin qof daciif oo adduunkii aan la mid ahayn laakiin dhibaatadii markayna saamaysay oo aynu iska qaban weynay munkarka la iska reebo hadda qofkaas doctor waxaan maranayaa professor Asmaan inuu ah munkarka iska reeb ehelka wadi dadku qabiil waa ka dhasheen nin walba qabiil uu leeyahay ujeedadii ilaahay u keenana wuu noo qeexay si clear in la isku garto maxamed waa abtigay cabdikariim waa adeerkay saas oo kale macna arrinta inuu socoto hebel waa in abtigay hebel waa in adeerkay hebel waa habaryartay hebel waa eedaday waxa familka iyo maxaa la dhahaa cashiirada iyo maaragtay si isugu xiran tahay qaraabada inuu saa ahaato kadibna la isku taageero waxa wanaagsan kadibna loo heeliyo haddii waxaas uu familkiisa ama qofkaas qabiil guud ahaan uu khalad galo laakiin hadda waxa taagan nin dadkayga kamid ah tusaale ahaan madaxdeena oo kale teena hor socota baa khalad galay ana u jeeda oo khalad cad u jeeda baa qofku wuxuu leeyahay hadda waa inagiya see dhihi kara waa gobolkii uu ka yimid waa familkii waa dhibaato baash waa soconaysa arrintaas ma istaagayso ogaada waxay sii soconaysaa ilaa famil laba bahood noqday bay sii hoos u sii deganaysaa basal baa lagu metaalay markii la qeexayay qabyaaladu say noo saamaysay qabiilku ceeb maahan qofku wuxuu noqon karaa qabiilku doono waxa weeye marka inaynu dhaqamadeen hagaajino oo ummadeena si caam ah oo guud ahaan uga wacyigelino arrintaas oo dadkeena ay noqdaan dad siman la isticlaado ummad walaalaha baan nahay aynu ku base garayno maxaa la dhahaa nation is haysta oo hal dal ah oo hal luqad leh oo hal diin leh oo saa la isugu ixtiraamo arrintaas laga maarmaan waayo runtii meelaha arrinta ay naga dhibaataysan tahay oo aynu 30 sano adduunyada uga haray waxa kamid ah arrinta marginalizerka oo hadda la sheegayay oo ah maxaan ku dhahaa walaalkan ka hadlayay marka waa aad iyo aad baan macna ugu mahadcelinayaa walaalkan obleegiisa
waxaan ku darsan lahaa keliya un waxa weeye inaynu wacyigelinta badino in aynu dadka Professor Maya ku jiro accepted upgrade daayira yes sameeyo upgrade ma waa dhacay gorro ka kanadu joogaa waa taa accepted walahi laakiin waqtiga dhacay waa inaan haddana mar kale cusboonaysan Allah mar asaga 10 daqiiqo si yes marka waa soo koobaya maadaama hadda professorka soo galay walaalihan kalena waa soo tukanayaan inaguna insha Allah waa isku soo noqon doonaa khiyaarta meesha joogtaan naftarkeedu waxaan jeclaan lahaa arintaas kelmad ka yiraahdaan dadka khiyaarta oo maartay marka intaas baan ku soo gabagabeynaa may waxaan siinaynaa professor Maya saan dhihi lahaa aniga ma ugu soo galay hadda ma maqlaysaa professor Maya jibriil ku maqlaa okay professor waa waqtiga dhacaya zoom-kuna naga dhamaanayo inaan renew ku sameynaa mar kale marka insha Allah ninka saaxiibka xiriinay uu maqan yahay laakiin anaa ku siinaa insha Allah 10 daqiiqo haystaa markaas kadib baan bareeg galeynaa insha Allah anagana marka dambe waxaan ku soo direynaa mar kale link cusub hadii analysis joogis insha Allah ku soo dhaw aniga kulli tolo waxaan ku darsanaa maxay ahayd wixii kale academically adiga maxaa la waxa la wixii anaga research waxaan soo sameynay kulli tolo maxaa la lahaa waa ku sii soconaa laakiin waxyaabaha aan rabo in yani aan kaga faa'iideysto fursadan waxa waaye عفوا sorry professor wax yar afka ma u dhaweyn kartaa xogaa waxaan saaraynaa mikrofoonka macnaha hadda wax yar u dhaweysid xogaa si codku waa maqli kartiin ma hadda soo hadda waa rooy good biyahan afar okay maxay heeto inuu waxba heebsoocin bor from diin ahaan dhaqan ahaan iyo dadka wax rabo marka inay sameeyaan ama institution u dhisaan ama rabaan dhalinyaradaas inay maaragtay yani maxay ahayd ama dadkaas oo iskuulaadka ama shaqooyinka ama problemka xirfadaha haysto waxaa loo baahan yahay marka ugu horeyso in institutionskaas ay naqdaan institution not inuu heebsooc ahaan heebsooca waxaa keenaya fakriga waay because haddii aniga aan dhisan karo 10 dabaq maxay imaarad ah aan muqdisho ka dhisan karo ma lihi heeb soocaayo gabadhaan rabaan guursan karaa mo laakiin waxaa lihi heeb soocaa marka aniga aan fadhiyo suuq fadhiyo oo ama tumaal aan ahay ama koba aan samaynayo markaas waa marka la iibshaa marka haddii la rabo in wax loo taro educationally waxa waaye dadka aad u dadaaleen khaasatan dadkan hadda programkan oo 0.5 kila geliyay allies ay heleen dad oo aan ku jirin shalay tole ay heleen oo mainstream ahayd marka waxaa loo baahan yahay markaan in lagaga faa'iideysto fursadaas ay noqoto fursad dhaqaalahooda lagu kobcinayo qofka raba inuu sameeyo human rights oo dadkaas u sameeya qofkii raba ama institutionkii raba marka hore waa inay sameeyaan economic rights qofka hadduusan lahayn economic rights future-ka waxaynu dib u soo dhiganaynaa waxaan sameynaynaa institution-kii isku dayay ama group-kii isku dayay ama individualized ID-ga ama vision-ka keenay horta kow in ayaga la xoojiyo oo la siiyo garab la siiyo la xoojiyo maxay ahayd maxaa dhacay waxa waaye waa maxay ahayd waa yani tii fardigii oo wuxuu noqonayaa sidii janaasada oo kale hal qof hadduu qabto haddii la badan yahay labada marba waxa waaye fardiga waa naga dhacay arrintan in Soomaaliya u istaagto oo yani maxay ahayd dadkan la heebsoocay ay la soo qabsadaan ama la jaan qaadaan dadka mainstreamka waa lagu qasban yahay qof kasta individually Soomaaliya uu ku qasban yahay sidoo hore waa u sharxo laakiin waa lagu qasbay maxaa loo qaban karaa waxaa loo qaban karaa marka ugu horeyso horta dadkan dad dhul la'aan maaha oo dad yani la dhihi karo maaragtay war adeerayaalow sidii jibska oo kale meel aad degtiin iyo money hayna maaha Soomaaliya waa weyn tahay isla markaasna ayaga naftigooda gobol badan ay leeyihiin in empowerment lagu sameeyo
dowladaha ama dowlad goboleedyada isku dayay inay ma aragtay yani maxay ahayd administration sameeysan sida maxay ahayd Somaliland ama Puntland ama yani oo aad meelahaas horta in la xoojiyo maxaa dhacay because meelahaas nabada ka jirto oo qofkii dhaqdhaqaaq rabo inuu sameeyo yani nabadaas darteed waxaa dhici karta wax badan inuu qabto haddii aan usoo noqono dhinacan from Mudug ilaa iyo Kismaayo iyadana waxa waaye maxay ahayd dhul oo fertile way dhul fiican ay degan yihiin maxay ahayd industrialka oo ay ku jiraan yani 2 ama 3 maxay ahayd qayb ayaa waxa waaye banaanka u baxaayo qaasatan dadkan oo maxaa lahaa oo biraha ka shaqeyn jiray tumaasha iyo mid maxaa lahaa maxay dadka koobaha ka shaqeyn jiray dadkaas banaanka u baxay dadkaas maxaa lagu sameyn karaa waxaa loo sameyn karaa hadda mujtamaca ama community-ga oo magaciisa Denmark waxay sameyn karaan lacag isku aruuri karaan warshada u dhisi karaan warshadaas waxaa dhici karta ilaa 30 ilaa 100 ilaa 200 inay shaqeeyaan dadka xirfadda ay leeyihiin hadii lagu dhiirigeliyo ayaga iska celin karo maaragtay maxaa lahaa maxay ahayd waxyaabaha kale oo maxay ahayd oo magaalada yaal teeda kale dhaqaalahooda in la kobciyo qofka hadduusan dhaqaale haysanin waxaana u jeedin dhan dhaqaalo way yani waa individual families loo arkaa waxaa loo arkaa magaciisii qabiil ahaan loo arkaa yani dadka waxaa la gumaadaa markii uu qofka lacag haysan qofka markuu lacag haysan waa la gumaadaa sida hadda oo maxay Soomaali dawlad oo intaasoo milyan oo hal qof ama 2 qof oo imaaraadka imaada oo u gumaadayo wuxuu ku gumaadayo wax kala maaha wuxuu ku gumaadaa lacagta ku gumaadaa economically ku gumaada maanta yani maxay 1975 jaamacadaha maxaa lahaa Abu Dhabi iyo Dubai waxaa ka dhigay dad Soomaali macallimiin u naqanay immigration koodi Soomaaliya joogtay maantana vice versa waxay ku dhahaan maartay anaga we have to maxaa lahaa create our own army I don't know what protection marka waxaas dhan waxay ku yihiin examples ay ku yihiin dad ninka joogo ama family-ga joogo ama group-ka joogo Denmark waxay sameyn karaan khadwadii ugu horeysay ee qaadi karaan institution-kan dadkan ra'yigan keenay garab hala siiyo anaga dhinacayna maxaa lahaa North America ama Mareykanka ama Canada garab waa ku siinayna waa imaanaysa qofkii oo ama institution-kaas wado waa sponsor gareynayna debates kan oo kale ama forums kan oo kale u sameynayna waxaan maaha wax laga xishoonayo maaha wax la tuugayna maaha qof la tuugayo ma jiro ma faham laakiin problemka oo ugu weyn oo la rabo in Soomaalida ay isfahansiiso waxa ninkan oo dhahay maaragtay maxay aniga la dheeranahay ama foorkan kamid ahay waa probio maxay barnaamijkii oo waxa way Jaaluud iyo Khaaluud iyo maaragtay yani ama barnaamijkii faraaciinta way yani ninkan fircoon way wuxuu rabaa in uu dadka dulaysto rabaa marka ma laga yeelayo ma la dhahay qabiilkan waa xun yahay waa fiican yahay ma qabiil laga yeelayo ma qabiilka kale inuu hoos u dhigo haddana Somali experience waa ku filan tahay waxa ku filan anagoo indheena shanta aqli leh cilmi leh in 0.5 la create garay 0.5 ka waxa loo create gareynayo waxa dadkan dhulkooda in la xalaaleysto dhiigooda in la xalaaleysto dhaqaalahooda in la xalaaleysto gabadha ugu qurux badan in markii la rabo maaragtay yaa la soo wato waxaan dhan waxa wax la rabo institution in loo sameeyo laakiin aan la badinin institution-ka aan la badinin aan lagu dheelin magaca ayada naftigeeda ninka dhahayo waxaan qabanaa ama group-ka dhahayo waxaan qabanaa ama institution-ka dhahayso waxaan qabanaa in ay ayagana preservation u sameeyaan dadka sharaftooda aysan ku cayaarin maxaa soo haray maxaa la qaban karaa future-ka waxaa la qaban karaa institution oo gooniya loo dhisi karaa عادي واي هذا أنا ماشان محيط كندا على بيستين كوال جمادي جري حتى مركي أي مارك إنستيوشن دولة أو يعني قرتي إن إذا كان دمين كرين وحبك قبل كرين نبي كرين وحيس ما يصير إنستيوشن أو دستي ما فهم إنستيوشن إسكاسا كسر بحاجة يعني أنا جا مؤمرين أي إن سمت أما مقدشو أما بنادر أي صو صار كران ده أو محلها لهيب سو عايو or highly educated, highly intellectual inay soo saari karaan umanina because wuxuu qofku ku dhimanaaba galaaska iyo maxaa la dhahaa principal office ko ku dhimanaaba
يعني ما بلغ مقلع ورقود ما لما داتا بدن هاينا قبل بدن أو لبي هاينا على أجل بكاس وحواي يعني أما 0.5 واي أما ده كان له بسوا عواي ما فهمت أو institution كله كده ويليش أساس الله دباب محيه توسيف في عنا رسمين كرا الله بسنا هر سنة قاعد تهدير الطريق ملك سوماليا لتوسينو يا institutions كلا توسينو يا حتى بوح أو سوماليا أو حتى أتوسن ملها بوليس كم توسن وأركتي military كم توسن وأركتي محكمة دي وأركيسا ده غريو ده الله خايس الله قادنا minority أهانا الله قادنا مرنا majority أيوة هذا الله دعاء marka ani waxay ila tahay oo rabo inaan yani aan proposition ka ama ra'yigan vision kan aan ku sii daro waxa way waqti fiican la jooga dadka wax waa barteen ha naqato Denmark ha naqato the focal point-gi oo ma aragtay yani barnaamijkan oo maxay hayto hormuud ka naqan lahayd oo dadkan wax bari lahayd dadkan jahliya haysto kan qoriga haysto jahliya haysto kan xafiiska jooga jahliya haysto hadda tagtid safaar yani aad tagtid wasaaradaha aad tagtid xamar ku yaalo hadda tagtid 99.9% marmara waxa arkaysaa hal jufo oo ugu yaraan ilaa 200 300 inay hal meel ka wada shaqeeyaan oo ilaa 7 agaasimo ay leeyihiin isla hal meel isla hal wasaarad marka waxa waa babatay yani ma hayto dadkan waxay gaareen hadda waxay gaareen qaasatan group afartan group waxay gaareen sida white man ko kale white man ka halna banaanku ku jooga oo kula shaqeynaa wuxuu ku dhahaa do you need any help kan kalena halka ku diida wuxuu ku diidaa ina meesha lugta la soo gashido ku diida marka yani ma la naqan karo يعني هو واي ولا شو كده كرا ولا سامين كرا لكن قفك دبك قبو أسرع دبك قبو 0.5 دبك قبا ده كان لسيه بسرعة ومركه هرب لسيه بسرعة دبك قبا محيه تو ميل كسر لقلة دجالمي بقالها لقلة دجالمي جوركي لقلة دجالمي محلها محيه سمعة لقلة دجالمي هذا قفك سمعة مقولها يعني waxa uu shaqeysto ama waxa uu maartay oo create gareeyo ama waxa uu barto hatta lagu ma qiimeynayo waxa arkaysaa nin jaahil ah oo qabiil daraajis loo qiimeynayo proof allahaya proof waxa way idinka hadda kulley sanduuq shinni ku jirta jugsiiseen marka bal horta u diyaar garoowa maartay mask waxa xigta maartay it's not an easy مثلا waxa fudud ma aha wax ka fudud hebel laga qaaday hebel loo dhiibay ma aha this is waxa way generation ki kale oo soo socday oo dhalinyarada ah oo jaamacadaha dhigto ayaa hadda maanta Landheer iyo Langaab ka hadlay way maanta ma aragta 60 sano kadib Soomaaliya oo xor noqotay in wili toole debate uu yahay ninkan waa ilismiya ninkan ilama silno ما فهمت وواحد يعني واحد آدي مارتي يعني قدام بيوه لكن وحنا كسو قبلنا إنه وحي هوري واتكتي حتى وحي قدام بيوه خلا صحو يا صحايو تبكي يا صحايو لان نينك لانقاب كلا دهايو نينك اللي هيبسو عاي نينك أسا صحايو ما صحي كلا نينك كلا تو صحو وحونا كنا وايت مان وسيف كرينا يو محلا يحييتو بلاك نيبرهود عمر aad baa u mahadsan tahay professor aad baa u mahadsan tahay insha Allah noo soo yara gabagabay salaadina waa la galay insha Allah conclusion inoo soo gudbi the conclusion is dadka isku xilqaamay suwa dadka isku xilqaamay in la dhiirigeliyo in maaragtay Denmark ay noqoto community-ga Denmark ay noqdaan horseed dadka ka ama hormuud ka barnaamijkan maxay hayto inay la xiriiraan ma fahamtay ay la xiriiraan yani in laga hormariyo human rights ka laga hormariyo economic rights qofka marka economic rights asiisi oo wax sameeyo oo wax tacbado asaga iska bixinayo heeriyada asaga iska qaaday intaas ku soo gabay aad iyo aad baa u mahadsan tahay professor aad iyo aad baan ku salaameynaa salaadii maqribkana waan haysay
جزاك الله خير يا كلنا هاي وإن شاء الله وفصحنا سمعت بروفيسور قبل هذا أنا الجوت وافقنا لها لكن حالي قرر كعدي هل كان واجب تا ما كنت فسحنا بس قبل أنا الجوت سو جيدي كتا أوكي بروفيسور واتكلنا ومركب حسين يسوينا نورمون كتبنا قبل سنين نلجوك هذا هو حوازو كم بحين هل زود لوا وما صدق سوغانتا التاريخ هذانا جيجدا وهذا وكشقي شغلي سكر عادي ما عرفت marka lagu daro waa asagoo ah matalaha ururka weyn oo qorayaasha Soomaaliyeed oo been lira ururkaas wuxuu matalaa Scandinavian iyo Nordic countries ay u matalaa doctorka marka wuxuu ku jiraa intellectual Soomaaliyeed oo ugu weyn dadka aan rabnay inaan ilaashano mustaqbalka uu ka mid yahay Dr. Xuseen marka hadda asagaan ku soo dhaweynayna Xuseen ku soo dhawo adiga iyo waxa la jooga Xuseen xildhibaan xeele oo marti ah Soomaaliya ka yimid oo asagana aan aad ugu faraxsanahay inuu fursad workshop uu siiyo inuu la hadlo xildhibaankan waa soo dhaweynayna Xuseen waa soo dhaweynayna Xuseen adiga xildhibaanka waa كاسة كهل انت جمعالي وكي بتحمر وصوماليا مرحبا مرحبا حلبان تاليا مركوري أنبيس كاسة كهل انت كاسة كهل كاسة كهل لا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله هذا هو فرحسناي إلى أن كسوق يبقى وشوف كان برنامج كان دكتور حسين وخيارتك الله وما دعينا يرجع له أحد دايو موضوع عدو دنينا يو هاي أنا كشخيو dadka minority-ga maaragtay wax la baro iyo faa'iidooyin xildhibaan magacaaga iyo shaqadaada marka hore inoogu bilow insha Allah هذا مجري واحد لو يوسف علي جمعالة برلمان فدرالك دولة سوماليا كترسنا هاي لأن دور شديد نقل مدوق من اللي رواي عندك minority كانوا كميدا كسع وكم قلنا marka waa macsantihiin mawduuca uu ku saabsan yahay isha doorka dadka minority-ga wax barashadooda iyo sida loo sabta bixin karo muddo 10 sano aan ka shaqeynayay marka wixii aan kala socdo iyo wixii oo laga qaban karo ilaa aan kala hadlo idinkana aan kaga mahad celiyo waa waqti qaali ugu ah iyo mawduucanba waa howlaha aan u jeclahay inaan waqtiga gasho ka hadlo muddo 2013 ilaa hadda aan ka shaqeynayay billahi alxamdu meel fiican ay soo gaartay ilaa kun arday aan geeyno iskuulaad oo dadkaas ah ilaa 35 iskuul ay dhigtaan oo Muqdisho ku yaalo waxaana caawiyo dadka Soomaaliyeed kambaniyada caawiyo waxa kamid ah kambaniga Hormud Foundation iyo dadka Soomaaliyeed marka hadda konton cunug ah dhamaysay dugsiga sare jaamacadaha Muqdisho aan geeyay jaamacadda Simad 23 aan dhigato jaamacadda oo Muqdisho University 9 aan dhigato jaamacadda ummadda aan dhigato 8 jaamacada kale oo yar yar jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan dhigtay 7 waxdaas marka ummadda Soomaaliyeed aan caawiso waxyaabaha hadda intuu joogo waxa kamid ah mawduucaas marka waa mahadsantihiin rumaantii waa dad intaan waxbarashada loogu yeerin amba aan la geyn u baahan wacyigelin fara badan u baahan waaye oo meel fog ku dhacay aniga maadaama dhax galo maalin kastoo jimco ah maanta ifraaq leeyihiin waqtigan siyaa inay dad Soomaali yihiin dadkaana Soomaali yihiin in wax la barto inaan qof ka xigin in wax la qabsado qof inaan ka xigin marka falaan meel fiican hadda soo gaareen waana fiican yihiin marka deegaano badan aan rabay ilaa tago qaarna waqtiga ay saamixi waayay sida Galmudug iyo Puntland ayaa rabay حتى Somaliland fursad uma helin iyo duruuf aan ku tagi karin inay jirto koonfurtana ma tegin marka
in wax la baro waxaa ka horeysa waalidka in la wacyigeliyo. waalidku xisaab uguma jiro cunuga markay dhasho inuu wax baranayo, xisaab uguma jirto. waxay ku leedahay waxaan cunno ma haysane maxaan wax ku baranaa. marka waa bulsho oo waxbarashada ka hor jabsan. marka hadda meel fiican ay soo gaareen. ummadda soomaalida caawiso waxayada caalamiga caawiya ku jira. dadka ganacsatada, siyaasiyiinta, dhalinyarada, dad badan ay la caatifoodeen. qofkii waxaan ka qaadaa sanadkii $120. marka falilah alxamdu meel fiican uu soo gaaray. dadka minority-ga ah adiga beesha shanaad waa ay ka mid yihiin. beesha shanaad 4 baloog ay wax ku qaybsataa. banaandiriga iyo qolmis oo la yiraahdo iyo wala jareerweyne iyo anagoo beelahan oo la haybsooca ah. marka dhibaatada ugu weyn waxay ku dhacday dadka jeerta ah iyo anagay ku dhacday. marka dhibaato kalena ma dhicin waxbarasho la'aantaas iyo jahligaas waaye Soomaalidu hadda dad xun ma aha. waxay kala yihiin dulmi iyo cadaalad darro. hadduu cadaalad darro ah tabanayno ma jirto oo bulshada waa la noolnahay oo maalka waa la cabnaa, dhulka waa la tabaanaa, deegaanka waa la degannahay, waa ka midnahay. marka dulmiga waa qof shakhsiya amba shakhsiyaad maalin waxay sameeyeen. taas wax cadaalad darro ah ma jirto. Soomaaliduna waa dad wanaagsan. kunku cunugu hadda ay iga caawiyaan. marka meel fiican soo gaaray. dalka Suudaan 18 aan geeyay ilaa 19 aan geeyay. Bangladesh 3 aan geeyay. Turkiga 2 qof aan geeyay. meesha leeyahay Masar 1 qof aan geeyay. marka soo dhawaada waxaan qabaa dadkan waxbarashada ka hor waxay u baahan yihiin wacyigelin aad u fara badan. u baahan waalidiinta amba aabaha amba hooyada amba maaragtay ubadka waxaa ka horeeya waalidka la wacyigeliyo oo la yidhaha waxaan waa la baran karaa, waa la naqan karaa, waa la tegi karaa. hadda waxyaabaha oo shaqadaan inaan wada ii saamaxa waxaa ka mid a 3 qof ah shaqo loo helay. wiilna waxaan uga helay bangiga dowladda Soomaaliya, wiilna waxaan uga helay Astaan TV, gabarna Premier uga helay. dhammaan hadda jaamacadaha ku faraxsan inay dhigtaan. arkaan qofka dee wax barato waa la qabanaa. ninka Astaan TV iskale khayr Allah si wuxuu sanad kasta qofaan ka qabanaa oo dhahay. marka soo dhawaada. aad baa mahadsan tahay. waa ku mahadsantihiin. aad baa mahadsan tahay. meel kala galay soo dhawaada. may waa si fiican. aad iyo aad baa mahadsan tahay. jazakallah khayr ayaan ku leenahay. waxaan rabnaa haddana haddii marka Xuseen Wadaad asagana insha Allah in 2 kalmood aan siino. adigana waa ku soo noqon doonaa insha Allah. ما شاء الله هذا ما سنتيجين مركي دان كارتو runtii waxaan jecelahay marka hore qoriyo horaan ba inay salaamo qoriyaha groupkina barnaamij soo qaban qaabiyeen oo ugu horeeyo Dr. Abshir Jaamac Warsame, Professor Abdulqaadir, Dr. Ahmed Jibril runtii iyo Professor Maxamed Maye oo aan kula ka soo hadlayo wadi ma celinayna dhamaan. runtii waxaan ka hadlaynaa wax fudud ma aha markaan salaanta guud intaan uga baxo. waxaa muhiim ah in isweydiino bal marka hore maxaa la yiraahdaa haybso. bal aan isku dayo bal in aad raadisaan ama isku dayo inaad raadisaan oo akhrisaan buug yar oo qoray qoraa reer Marocco ah Faransiis ah runtii oo la yiraahdo Dahir bin Jalloun. buug waxaa la yiraahdaa al-cunsuriyya kama sharaxta ibnati. mar raba inaan ku dheeraado qaarkiin ay buug arkeen laga yaabo buug wuxuu ka hadlaa waxyaalaha keena faquuqa iyo cunsuriyada waxa ay yihiin wax asalka u ah. marka qaybtaas haddii aan inta uga baxo waxaan u gudbaa insha Allah qaybo kale oo yar yar. waxaan rabaa fuquuqa iyo haybsoocu waa dhaqan aan diin iyo dadnimada ku salaysnayn. waxyaab noqonayso sida ay ku dhici karto in ruux noloshaada ku tiirsan tahay oodan la'aantiis wax qabsan karin oo aad u faquuqdaamo. hadda ogow noloshaadu maalinna si qurxoon uma jirteen haddaanu kabaha ku turin, biraha ku tumin iyo baahiyaha kale ee sancadu ama xirfadda ku salaysan adiguna aad ka faanto balse noloshaada salka u ah. waxaa isku daydaan inaad fiirisaan buug aan qoray oo runtii aan kusoo bandhigay magaalada aad degan tihiin oo la yidhaha laabta ka soco dareen iyo garasho. cutubka 12aad ee waxaa uga hadlaa wax la yidhahdo kabadole ka kabala. haddii aad mid ogaataan qoraalku marna waa toos marka kalena waa tarbeed iyo halxiraale.
muujinayso intii aad kabaha ama sancada aad u samaynaysay oo isaga si gaar ah ugu baahnaa aad uga weysaa tixgelin aad ka mudan tahay. waa halkaas halka ay ka imaanayso kaba la'aantu. waa aniga dhahay kaba tole ka kaba la uma jeedo kabaha la gashanayo darteed, waxaan u jeedaa qofkii aad kabaha aad u samaysay ee aad biraha u tuntay ee baahidiisa waxyaabaha u baahnay aad u samaysay inuu asaga fiiriso oo tixgelinta aad ka mudneed aad ka weyso waa nasiib darro runtii. ayaan darro aanan garan karin sabab ay usii jirto una sii socoto dhaqan iyo dadnimo xumada caqliga diinta iyo mandiqaba aan aqbalin. waxay ila tahay in arrintaas foosha xun ee aan xambaarsannahay looga gudbi karo wacyigelin ficil wadato oo loo wada istaago dhammaanteenba gacmana aan isqabsanno. waa waajib ina wada saaran ka dhiidhinta faquuqa xanuunka leh ee lagu hayo walaalka walaasha. waxa aan qabaa in laga wada shaqeeyo labada dhinacba in dadkaas loo gurmado in ay helaan xuquuq la siman dadka intiisa kale. waxa waajib noqonayso in aan kor u qaadno niyadooda iyo heerkooda waxbarasho iyo kooda dhaqan bulsho iyo midooda dhaqaale intaba. waxaa jiro oraahyo badan oo qaarna qoran yihiin oo ay yihiin suugaanada Soomaaliyeed wax badan ay uga cabireen arrimahaas. waxaan ka xusayaa dhowr maanso oo wacyigelin iyo dhaqan dhab hadal ah oo ay soo jeediyeen. waxaana ka mid ah Abwaan Bashiir Maxamed Xirsi oo arrimaha ka hadlayo maanso la yiraahdo maansadiisa muwaadin. waxa uu leeyahay abtirsiimo magac iyo hayb miyaa milkaba noqon ma dhibaan waxaan noqon miskiin aan wax qaban karin midigtiisu laasho aan miciinba tari karin. midgaanna wuxuu yahay kii meherad laawaa muruqmaalka diidoon ku macaashin gacantiisa. aan ka rooga bal haddana aan fiiriye bal cali cumar cusubow laashin ahaa yaa wuxuu leeyahay waxaa qabaya quursigay qiyaamana allow qabsaa. waa shirib aad u culus runtii. qof aad waxaad cunaysana aan gacanta kula geshanayn oo kula cuni maayo qadaayo baahi meel gooni la fadhiisanayo allah subxaanahu wa tacaala biri uu ku ciqaabayo sababtoo uu u samaynayo waxay tahay quursigaa dartiisa. xasan cabdulla cali suug oo asana laashin kale oo arrimaha ka hadlaya wuxuu yidhi haybsoocu beel haruufideed waa hab gumaysi soo helaan. waxaad arkaysaa markaad meelahaasoo dhan aad fiiriso inta koorku uu yahay wax aan anaga samaysan. sababta aan dadkeena u samaysteenna waxay tahay duruufo dhaqaale iyadoo jiraan yaa waxaad moodaa in xoogaaga yar ee la haysto in la kala jeclaysanayo oo qolahaas rabta inay qolada kale inay iyadu noolaato qolada kalena iska dhaqaajiso. marka waxyaabaha waxaa looga gudbi karaa waxay tahay sida hadda xildhibaankana sheegay horteyna la sheegay in dadka wacyigelin loo sameeyo. dadka markay wax bartaan suugaanta haddaan akrinaynana ay ku jirto markay wax bartaan iyagaa wax qabsanaya. maxaa yeelay waxaa la hayb soocaa maanta qofka aan waxaysan qofka aan aqoon lahayn waxay noqotaa adduunyada in lagu burburto ma aqoon. marka waxaan soo jeedin lahaa insha allah in gacmaha la isqabsado dadaalada noocaan ah workshoopyada noocan aad bilowdeenna in aanay ku ekaan magaalada degantiina ar hoose in adduunyada meel kastoo la gaarsiiyo sida dadka wax loo bari lahaa ayagana loogu baraarujin lahaa inay gogasha hoostooda ka soo baxaan wax bartaan dadka la simaan dadka wax hayb soocaan in loo sheego laga dhaadhiciyo waxaana diinna ahayn dhaqanna ayna ahayn walaalka ku baahan adna aad u baahan tahay in garab iyo gaashaan laga dhigto ay mudan tahay. intaasaan rabaa inaan kusoo gabagayo. waa mahadsantihin wixii kaloo su-aalaha aad baa umahadsan tahay insha allah. doctor xuseen wadaad aad baan kuu salaamaya kulmiyo weyn ku salaamaya. haddii su-aale iyo ay jiraanna waa kugu soo noqon doonaa hadduu allah awood ilahay ka raali noqdo. waxaan u malaynayaa marka qaybaheena ugu dambeeyaan geli doonaa laakiin laba kelmadooda waxaan siin doonaa walaalkeen oo Stockholm nooga yimid. ku soo dhawow xuseen daahir oo Stockholm ka yimid oo secretary guud ka ah ururka la yiraahdo Bidam saa u taqaanaan oo Puntland ka shaqeeya. soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله مدنيال وانا السلام يا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka hore u mahad celinayaa Eebbe subxaanahu wa tacaala oo suuqa ay keenay halkan. waxaan rajeynaynaa sida hadda ku socdo barnaamij aad u qurux badan weeye
in ilaahay inoogu guubeeyey si wanaagsan midna anfacana allah u ka dhigo marka labaad waxaan u mahad celinayaa dadkii soo qorsheeyey hawshan sida qurux badan isugu soo dibiriday anigoon kala reebay run ahaantii barnaamijka maanta meesha lagu qaada dhigayo waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah muhiim wuxuu u yahay waxaa laga dhawaajinayay 4.5 baa laga dhawaajiyay hadda ay tusaale ahaan ummaddeena markaad dhigtaan maanta hadda waxaan u fadhinaa dadka laga tiri badan yahay ama la heer sooco ama la xaqiro ama la duudsiyo waddankeena Soomaaliyeed ama Soomaaliya waxyaalaha ugu weyn ee dhibka hadda ka jira keenay waxay tahay cadaalad darrada qodobkan wuxuu soo gelayaa cadaalad darrada dadka isku tiriyay inay 4 ku jiraan iyaga naftigooda waxay tirsanayaan cadaalad darro macnaha haddii cadaalad la heli lahaa Soomaaliya oo qof walba sida ilaahay uu awaamirtan ugu siiyay cadaaladda in la tixraaco loo raaco ay tahay qofna ilaahu qofkaasi keligiis uu ka joogay ee lahaan adduunka qofna cadaalad darro kuma dhacdeen maantana hawshan looma fadhiyan anigu waxaan dareensanahay sidii dadkii iga horreeyey mutacalimiinta ahaan ay ka dhawaajiyeen ugu horreeyey professorka in hawshani ay ku qotanto jahli aqoon la-aan iyo war kuturkuteena ay salka ku leedahay professorkii haddaa isagana hadlayay wuxuu sheegay uu noo sheegay inuu yiri dhaqaalaha inay salku hayso oo ku raacsana maansida hadda markaad eegtaan waxaa lagu qaadaa dhigay in dadkii maansooyinkaasi tiriyay ay yidhahdaan qofka midgaanka ah ama sidaa iyo sidaa ah waa qofka aan muruqmaalka ahana wax la soo bixi karin waa wax sax hadda markaad eegto ummadda Soomaaliyeed bulshada ku dhaqan anigu Sweden baan ka imi Sweden iyo Denmark iyo Norway iyo Finland waa isku mid isku si baan u naalnaa oo ma u shaqaysanaa ama u shaqalaanahay markaad eegto hadda dadka aan shaqaysan yaa oranaya waa dadka 4 sheeganaya laakiin waa buux macnaha taasoo kale waxay keenaysaa qofkaasi maansadaas inay qabanayso cilmi durugsan uma lihi hawsha maanta meesha lagu qaada dhigayo sida ragga qaarkood oo ka soo shaqeeyay ragga hadda nala wadaagayay ninkaasi runtii waxaan ku qoslay idinkuna aad ku qosleen oraahday ahayd santuuq shinni ku jirtaa la isku jafay dadka qaarkood waxay yidhahdaan hooyada haddii la isku jafo hooyadan waa sidoo kale haddaa hooyo taqaanaan dadka ama shimbiro dhaqan jiray xamar aniga shimbiro ay joogi jira guriga qoolli iyo baashi looran jiray marka faquuqa iyo heebsooca waa wax aad iyo aad u liita runtii bulshadeenana meel xun mariyay ilaahay subxaanahu wa tacaalana dadka adeegsada ee mar walba ku dhaqma uu ka jaasiinaya sababtoo dadka isaga ilaaha abuurtay xaggiisana way ka sameyn yihiin oo midka ugu dhow waxa weeyaan midka adeeca kutubka iyo qur-aankii uu soo dejiyey iyo sunnadii suubanaheeni calayhi salaatu wasalaam anigu waxaan isleeyahay tusaale ahaan aniga 4 carruur ay jooga laakiin midkii la dhashay waxaa laga yaabaa inay 12 carruur u joogaan waxyar baan tusaya macnaha caqligii unbaa ii sheegaya laakiin tacliim wax ku saabsan maaha inkastoo bare aan ahay oo dhowr iyo 30 sano aan Stockholm ka dhigayay macallin baan ahay tirtoor iskuulna waan ahay malahayga markaan arko marka aan fiiriyey qodobka sida loo qaada dhigay waxa weeyaan ama dadka la hayb sooco ama laga tiri badan yahay maxay idin la tahay bal caqligiina fiiriya haddii tira badnaanta ay bilcagsi ahaan lahayd bilcagsi haddii ahaan lahayd tira badnaanta 4 ayaa waxay noqon lahaayeen dadka la hayb sooco ama laga tiri badan yahay ma fahmaysaa macnaha meel walba sidii loo yaallo ayaa loo iska dhigaa tusaale ahaan haddii maanta annaga aan Soomaaliya joogno ma maarootaan noqonaynaa ma noqonayno laakiin marka inta joogno maxay nahay minority sababtoo aan laga tiri badan yahay
marka qodobkaasi dhaqaalaha ku xirnaado waxaan kaloo leeyahay wuxuu raad ku yeelan karaa tirada sababtoo ah haddii 4 qof meel lagu joogo oo qof ka midab duwan yahay 4taasi qof oo saddexna isku yihiin qofna midab yahay waxa qofkaasi wuxuu dareemayaa in laga badan yahay oo wax kastoo go'aan lagu qaatana uu leeyahay go'aankaasi aniga cadaalad iguma tusaalahan marka waxaan rajaynayaa dadka ummadda Soomaaliyeed inay dareemaan muhiimadda ay leedahay in ilaah loogu dhawaanayo in ilaahna abuuray ishay midda labaad naga dhigay dad muslim ah markaas la doonayo sidii diinta muslimka islaamka ay u dhisnayd in loo qaato waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaa muhiim ah haddii anagu idil inuu ka qayb qaadano hawshan inay hagaagayso qof walba aniga sidaan idiin sheegay 4 carruur ay jooga 2 wiil iyo 2 gabdhood waxaad arkaysaan waxyaalaha ugu waaweyn oo ay aniga hadda aad baan ula shaqeeyaa xisbi baa xagga jira doctorka waan u sheegay abshir waan kusoo xirayaa baan ku yidhi aad baan ula shaqeeyaa waxyaalaha aan ka wada hadalna waxay tahay qofka inuu soo istaago oo yiraahdo waxyaalaha ugu waaweyn markii waddankii la joogay waxa weeyaan guurka oo kale tusaale ahaan in qofka hadlaya sida iyadoo kale uu yiraahdo 2 wiil iyo 2 gabdhood baa ii jooga oo ku dhiirigelinaya macnaha ay sheeg wixii dadka marka hore u arki jireen xeyndaab inay tahay inuusan jirin wax xeyndaab ah maxay ku dhacday waxaad arkaysaa hooyo ama aabe kugu khasbaya inaad xafladii ka soo qayb gashid oo aad gacan ka geysatid oo aad karaamaysid guurkaasi dhacaya ninka markuu ka yimi Gambia tusaale ahaan gabadhin ay Soomaali tahay ama waxaad arkaysaa inuu wiilka Gambia ka yimi gabadha Soomaali ama gabadhi Gambia ka timi wiilka Soomaaliya Gambia waa iska soo qaadanaya macna tusaale ahaan ama Kenya ka yimiba marka baleeg waxa weeyaan waa la jifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan wax cilmi ku saabsan oo rasmi ah ama diinna nagu amartay ama anagu aan cilmi ahaan oo soo baxnay inaysan jirin laakiin ay tahay wax ku tirikuteena waxaasna waxa loogu hortagi karaa markii dadka majority-gooda ay wada qaataan oo ay ka hortagaan in baa hadda ka dhawaajiyay wuxuu yiri markii cilmi la isugu yeeranayo faa'iido fiican dadku ay yar yihiin markii fadhi ku dirir iyo hawlo aan loo joogin iyo faataa dugul rabana dadku way badanayaan taas waxay keenaysaa marka jahliga wax kale ma aqoontu waa aqoon la'aantu waa iftilaan sidii loo yiri waa maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baa maasantahay xuseen insha Allah hadda waxaan rajaynayaa marka dabcan Cabdiqaadirna waa inoo dhiman yahay oo barnaamijka qayb weyn ka ah daatada marka insha Allah wax yar oo waxaan qabsanaynaa marka wax isweydiin ah oo insha Allah weydiin doono oo dadka dhan u furan laakiin su'aalaha waa soo gaabinaynaa yeena isku ekaan su'aasheeda haddii adiga aawooday qof kale uu riday marka saas waqtigan waa iska yaryahay waa iska gaaban yahay insha Allah waxa ugu badan oo barnaamijkan maanta loo qabanayo waxa waaye walaalkeen in contribution aan u sameeyno in marka contribution kaasna aan la halmaamin oo marka dabcan waa la sheegi doonaa sida loo bixin doono iyo cidii bixiyo meesha lagu shubi doono marka ku soo dhawaada cid allaaliya cidii marka su'aal qabtaa oo cidii ay su'aal u qabto ama comments qabto waa insha Allah waan u dhiibi doonaa laakiin aan naftirkeyga su'aashii aan qabay waxay ahayd in aan weydiiyo abshir bal arrintan horta maxaa ku dheriyay asaga uu hadda noo bilaabay waa kugu soo noqon doonaa su'aasha insha Allah ku soo dhawow ميكروفونك وحما هنا قفك العرض يمادو اوكي ماشي فكان يا كومنت فوق هذا الحمد لله رب العالمين وwaxaan u horsaday waxa weeye waa shukran leeyahay oo way ka tagayaan marka wax rabaa inta kelmadda akhrinaya صح la aad ma sayihiin intii meesha fadhida ka soo shaqaysay oo quruxda badan magacaa ku bilaabay cabdi aad iyo aad u maasantihiin waa idin mahadcelinayaa صح waa ii sugaani ukaadi hasaashiga ukaadi magacayga Cabdiqaadir Ciise oo baan yiraahdaa maxaa ka wajahsan anagu horta waxaan oran lahaa ilaahay yaa noo keenay deed mid siyaad barka kala ah oo naga joojiya qabaayilka iyo waxii magaranaysa naga aasa hayo muddaan ka nasan arbaan waxaan la sheekaystay oday adeeriya baan la sheekaystay maalin anagoo laascaanood anagoo joogna waan la sheekaystay markaas wuxuu igu yidhi wuu indhalaayay marka laakiin waa raggii hore markaas wuxuu yidhi maalin baa waxay laascaanood iga qaaday buu niman booliisa waa marka show qiyaas wuxuu igu tilmaamayaa
koob iyo toddobaatankii meelahaas inay waqtigaas ahayd marka koob iyo toddobaatankiina markii tooradu jirtay oo dee xoogga lahayd oo weliba la aasay qabiilkii waxaynkaas marka meeshii aan u socday buu yidhi niman boolis waxay rabaan geel inay ka soo qabtaan marka waxay yidhahdeen buu yidhi markaa meel dhexe maraynay ayaan ku yidhi buu yidhi war meesha aynu hadda maraynaa waa xaggee markaasaa la yidhi waa meesha waa xargaga meesha la yidhi xargaga markaasay ku yidhahdaan ku yidhi buu yidhi al annagii reer hebel beri baan ku diray halkano wallaahi bilaahi waxaa nimankaa ku dhacay haddaad ogtihiin markaasay intay nimankii soo boodeen bay ku yidhahdeen waryahay waxaad ka sheekaynaysa waa la aaseen aamus baa lagu yidhi haddaad mar damba tirahayd waa lagu xidhayaa laasnaad baa lagu celin markaasi war anugu haddeer ka sheekayn maayo waa horaan ka sheekaynaya dhegaysta buti anu maana haddeer ka sheekaynaya kacaankii waxaan wadataanba anugu ka sheekayn maayo buu yidhi marka waa weeye marka waxaan ka wadaa horta annaga waxaan qabiilka horta waa qabiilku daa wax la tacaarafu waad iska garanaysaa qabiil waa iska qabiil oo waa la garanaya laakiin annaga xagga iyaga nimankaasi waxay leeyihiin runtii aniga iyo ninka madhibanka oo ay isku haybta yihiin ninka la yidhahdo abshir isku haybta yihiin isku mag baano markaan joogo waddanka dhulka iyaga markaan joogo isku mag baano waana nimanka ku abtirsan waa nimanka yidhi macnaha fiidkii markay tahay oo ma garanaysa inta caanaha geela laga soo dhargo la isugu yimaado ciyaarta la isugu yimaado ciyaarta deeni way intuu soo ogogto waayo markaa ciyaarta ka booda marka wiilkii halkaas ka soo jeedo ma dhibaan oo khatar ah ayaa gabar ku tiri isa sheeg waa kuma tahay markaasuu ayar markaa ku dhuftay faaduma yinaadeen waxaan ahay wuxuu yidhi waxaan ahay inaan baarka sare ahay oo inaan baar nahay oo baarka sare ma dhibaan garaadnahay ayaa ku sheegaya ma dhibaan garaadinaan nahay marka runtii annaga xaggayga qaaliga bay ka yihiin laakiin anigu qodobka ugu muhiimsan oo aan ama laba saddexdood baan kusoo gaabiyey ayaan anigu odhan lahaa baa ugu muhiimsan in arrintan lagu abbaaro baan odhan lahaa saddexda qodob horta waxaa weeye dadka laga tirada badan yahay in ay noqdaan sida ninka la yidhaahdo wiilka xildhibaanka ka hargeysa ee la yidhaahdo magaciisa barkad batuun inuu inoo noqdo mandela inuu inoo noqdo oo aynu wax badan kaga dayno ninkaas waayo conference waa nin meel degay weeye raganimo ilaahay u dhameeyey oo aan jecelahay aada u jecelahay intaasoo midhan haddii laga wada helana waxa weeye oo ay nin qof waliba kalsooni isagoo isku kalsoonaadana waxa weeye waxaan u malaynayaa inay waqtigeed ka gaabnaan doono qodobka kale waxa weeye fakriga waa se hadda nin aynu soo xiriirinay baan ka dhawaajiyey fakriga ninkan odagana waa ka dhawaajiyey hadda fakrigu ninkan kabaha tolaya kabaha ma tolayna warshad buu samaysan lahaa warshad isagana shaqa tegi lahayn warshad intuu samaystaba nooyar isaga u shaqa tegi lahayn marka fakrigaa keenaya waxa kan kala sooca kan iyo timaxiirkan iyo waxa kan oo fakriga badanaa keenaya oo farsamada yaroo dee iska yacnaha lowgaha baa keenaysa qodobka saddexaadna waa aqoonta dadki in la dhiso sidaa hadda abshir ninka xayle wax weyn buu qabtay runtii xayle sidaa xayle inaynu yacnaha u gurmano contribution ku bixino aynu dadka u wada gurmano oo markaa kor u soo qaadno aqoontooda taasina wax weyn bay ka qaadanaysaa raalliga ahaada waa ku dheereeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baa umahadsantahay cabdi of jazaaka allah khayr ciddii markaa ama su-aal kale qabto cabdisalaan haddii su-aal qabto ama ciddii kale su-aal qabto yaa gacantahay cabdimalik miya cabdimalik iyo mj insha horta bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waa mahadsan yahay abshir dr abshir iyo akhyaarta kale ee caawisay su-aashaan rabay inaan weydiiyo xiriiriyaha uu ku booyo mashii anoo gacanta u taagan wuxuu yidhi maxaa kugu dhaliyey waa ka bedelayaa su-aashaas oo waxaan dhahayaa
barnaamijkan waxbaa kugu dhaliyey dabcan wax iska yimid ma jiraan wax kastana waxaa jira dadka wax u raadinaysa laftaada waxaa marar qaarkood ayaa laga bilaabaa marka abshir waxaa rabaa inaan weydiiyo dadka hadda soomaalida dhan waa wada minority sababtoo ah hadda aniga ragga hadda meesha ku kaftamaynay minority waxaa laga wada yahay marka siyaasadda la aado haddii xaqiiqatan hadda run loo dhaabto sababtoo ah hadda haddii aad dan leedahay ama muxaadaro u baahan tahay ama aad aqoon u baahan tahay qof ay kaaga xiran yihiin qabiilkiisa ma weydiinaysa qofka kuga hadda shiiq haddii loo baahdo shiiqa ugu aqoonta badan oo raadina lama raadina ayuu yahay barbaleenka soomaalida haysta marka inta badan waxa waa qaybta siyaasadda anaga barbaleen haysta iyo manfaca haddaan soo koro abshir marka barnaamijkan waa bilowday ilaa iyo haddeer noomadan sheegin dadka memberka ka ah muhiimka anaga lafteeda noota ay ku dhageystay oo aad maarta casuumtay sababta dhiirigelinaya anaga lafteeda noota weliba dadkan haddeer aad wax u raadinaysid intee door intee la-eg awoodooda sidoo taa noqoto dadku awood maaha members ma ka yihiin xubin ma ka yihiin barnaamijkaas awoodid see u arkaan laftooda waa taas waa su-aasha koowaad dabcan wax kalaan rabay in dhaho laakiin ma aqaan waa qaybsan leeda سؤال إن شاء الله وحكرا حسوسيننا تطوري بركي هل كان معناها والحرية مركب أنا contribution كنا أن إن شاء الله أن وصلنا contribution ولكن أنا هو تعمله كسره MJ بسم الله الرحمن الرحيم مديرنا يلا وضغيبه وكير أولا نرتوي ما تسيهين برامج كان تكسوه الغابي وحفظنا ونكسل وإن شاء الله وحنقرأ عين كواليتيجا يعني dadkan shirkan haduu galabta ahaan lahaa shirarkii online-ka waynu ognahay hoolkan waynu ma qaadeen yani hool ka weyn baa maaragtay ay noqon lahayd in la helo laakiin waxaan rajaynaynaa yani isaguna maaragtay yani inuu maaragtay saas uu kordho oo aakhirka uu noqdo shirarka ugu waaweyn aan ka qayb qaadano yani arrimahan cadaalad waa la sheegay yani horta yani waxa yani cadaalad darro waa la sheegay waa run waxa kale oo la sheegay yani maxaa la yiraahdaa dhaqaalaha waxa la sheegay yani waxyaabahaas oo leeyihiin waxyaabaha la keenay in la isgumaysto marka hadda for example aniga alxamdulillah waxaan leeyahay 3 wiil baan leeyahay laakiin walaalkii wuxuu leeyahay 12 wiil yani marka waxaan ahay laangaab isaga iga la dheeraysa ya kooy yani halkaas ay baashu ka timid hadhow markaas aniga waxa laga yaabaa aniga reerkayga kaas baa maaragtay gumaysan doona kaas baa gumaysan doona marka bahashu horta waa iska intaas weeyaan wax saas u sii weyn maaha laakiin waxaan rajaynaynaa hadda qolyaha oo tabanaya minority-ga oo tabanaya cadaalad darrada markii ay bataan oo ay xoog yeeshaan iyaguna inaanay maaragtay cadaalad darro samayn oo dadka aanay maaragtay iyaguna aan gumaysan cadaalad darridaan ka cabanayni marka intaas waxa weeye waa kaftan insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo shir oo maaragtay yani workshop-kan noqdo mid sii socda oo aynu horumarino oo maxaan ku idhaahdaay aynu mujtamaca aynu uga faa'iideyno inaguna ka faa'iideysano intaas kusoo gabagabinaya saaxiibka abshirna wax su'aal oo maqan wabillahi tawfiiq إن شاء الله عبد المالك هل كلمة كريسينا أبشر أمر كورة جنتونا يا عبد القادر أو مركز برنامج كأيها إنه سوق جوينتونا عبد المالك مركز كسره إن شاء الله إسراع صار أمر الله كتبنا أبشر بان سيرنا يا عبد القادر أو برنامج إنه سوق جوينتونا إن شاء الله بسم الله أنا وحن رواكلية برنامج كان runtii aad buu qurux badan yahay abshirna waa ku dhiirigelinayaa arrintan uu sameeyey sababtoo ah qofka raba inuu isbeddel sameeyo waxaa ka hor imaan doona dowlad waaweyn waxaa laga yaabaa magacan lafti inta qola ka koogeysata haddeer oo laga yaaba inay isku jifa yihiin isaga inay birito ku shirtagaan laftooda asaga lafti caqabad ku noqdaan way fiican tahay inuu arrintan sameeyey
kana maaragtay shaqeeyey asxaab waaweyn oo keenay waan wax anagoo dhan aan rabno inaan wax laga qabto oo u taaganahay laakiinse waxaa muhiim ah anaga dad islaam ah ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamka markuu soo dejiyey bini aadanka wuu karaamay insaaniya baa laga cabiray walqad karamna laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala fadliga markuu ka hadlayay iyo aqoonta iyo xikmadda markuu ka hadlayay dadka looma siinin caruurta hadda ninkan uu sheegay looma siinin qofkaan rabna caruur baan siinaa qofkaan makadhalisaan ka dhignaa qofkaan ilaahay ugu sheegay moogtaa waxaa marka muhiim ah xuquuqda aasaasiga ah meelaha ay ka maqanta hadda waa la sheegay oo hadda abshir iyo xayle iyo ragga hadda socdaa waxay u qareemayaan hadda soomaaliya anaga lafteen xadgudub waxaan samaynaynaa ah soomaalinimada aan ku xadgudbayno marka dhinac laga fiiriyo sababta maamulada jooga iyo dadka jooga siyaad barkeliya la sheegaa laakiin dadkan weligood way noolaan soomaaliya aniga waxaan aaminsanahay intaan ka aqaan aniga dadka hadda minority lagu sheego oo dadku u aqoonta badan laakiin maxay yihiin percentage-ka ay soomaali ka yihiin baa yar saa daraaddeed baa marka qaarkood ay isan muuqanayn laakiin waxaa fiirisaa soomaaliya jaamacadihii hadda soomaaliya dadkii hormuudka ka ahaa dadka u aqoonta badnaa soomaaliya dadka aad taqaanaa keliya ile indhaha ku qabo meesha wax ka maqan yahay marka aniga waxay ila tahay oo la rabo in anaga dhan iyo dowladda iyo cid kasta wax ka qaban kartaa laga rabo in ka qabato xuquuqdii aasaasiga ah xaq almusaawaa wuu jiraa xaq maxaa la dhahaa qofka oo insaaniyada ah iyo xorriyaddii nolosha iyo xorriyaddii qofka inuu wixiisa aan qof ka qaadan karin way jiraan laakiin waxaa jira xuquuq oo anaga lafteena isu gaarabay kan waxaa laga yaaba walaalka ila dhashay tartanka hadda socda hadda doorashooyinka ogtan soomaaliya nabadoonkaaga ku dhacaya wuxuuna siinayaa nin kaa lacag badan laga yaabo laakiin ka aqoon badantaa kolkii taas marka lagama qiyaas qaadan karo meeshaas loogama qiyaas qaadan karo in xuquuq ay maqan tahay dadkoo dhan is dhacaya meesha soomaaliya waxa ka socda marka qaasa laakiin anaga midaa muhiim noo ah insaanka iyo insaaniyadda sida dadkan ay sheegaan inaan ka wada shaqayno islaamkana waxaa hadda meesha aniga inta badan rag badan culamo aan ku yiri waxaa ka mid ah maxaadarooyinka in wax badan looga hadlo in xuquuqda bini aadanka muslimka fardiga ah la ilaaliyo cadaaladdan in la ilaaliyo marka anaga waxaa muhiim ah inaan meel kasta ka sheegno cadaalad haddii la helo qista ilaahay ka cabiray in qistigaas haddii la sameeyo gurigaaga ka bilowda carruurtaada ka bilowdid qofka kale marka waxaad samaysid bir aad samaysid oo wanaag aad samaysid aadna qistina dadka cadaalad aad u samaysid wixii way iska imaanayaan iskuulladan la sheegaya marka iyo waxaan la sheegay way iska imaan doonaan abshir iyo raggan hawsha wadana aniga waxaan leeyahay aniga taageerayaa contingent waa bixinayaa qofkaasna ha bixiyo hala taageero laakiin baashiina weyneenni baasha siyaasadda anagoo dhan baa jaanis u haysanba oo waxaa laga yaabaa qofka 5 ka socdaaba dad baa ku cicishto anaga oo soo geli laanaaba marka waayo baashaas taasa laga dhigo insha Allah hana la taageero hana la badiyo waana ku mahadsanyiin Cabdiqaadir iyo Axmed Jibriil iyo Xuseen iyo ragga ninka la shaqeeyay oo wariyaha ka mid yahay iyo Matoto dhamaantood ma santiin jazakumullahu khayr وانا ماركتي iyo teelo saaxiibkay waa maasantii إن شاء الله أدرس واباسنتي يا بكاتمها تذكرن إن شاء الله تذكر كقيب قاطي وحن حتى لو دقيقة سنت وانا أبشر الله ودري كرار كتبنا عبد القادر بروفيسور عبد القادر أيها إنوسو كبين تونا برنامج كنا لكن ولي وحن إسحسوسيننا إن ولكن contribution كي وصل تركلني عدول با أنت ربطها لا إكاتو إن شاء الله أي أرنتاس أي لصقته كسرو دكتور أبشر ورسام جامع President of Foundation of Somali International Minority and Marginalized Rights. Welcome, my friend. Thank you. runtii aad iyo aad baa u mahadsantihiin su-aasha la iweydiiyey oo iweydiiyey saaxiibkay cabdimalik oo haddana uu iweydiiyey cabdirasaaq gudoomiye bal su-aashaas maxaa kugu kalifay in barnaamijkan aad samaysid waxa waaye annaga maadaama aanu nahay dad la yaqaan halkaas waxaa ku qoran halkaas maxaa ku qoran You must know who you are waa inaad taqaanaa qofka aad tahay and what you want.
أنا تقنا واحد أدونيس أوكي على كل حال قفكو هدوسنا قوم واحد أوياي يعني ما فهم كرا واحد أدوناي قفكو هدوسنا قوم ماشي أوكي مدي تاريخ ليس مو أوغان كرا حتى ماشي أسعد وأرين أدي مهمة أوكي ضد بوحي كلين ونهم حد لا على سانو أدل عبادة سانو مقرن سانو يعني وانا لتكورائي حقنا لكو سميائي وحان مقرن سانو متقانا معنى الأنتو أتكاهد ليس ورادر أنه علينا وقيلنا إنا سيأدو فهمتان واحد أنه أنو ربنا سيأدو فهمتان مقرن سانو أدلوها سانو waxay la mid tahay nin tibi qaba oo sanbabadu googeen oo atraadid wargeedii uu nacasku maxad la qofacaysa ama atraadid magaranaysa corona virus uu qabo maxad la hindhisaysa doqoyo taas bay la mid tahay okay marka barnaamijkan sababta aanu aasaasan idin sheegaya sababta barnaamijkan aanu asaasay waxa kaliya oo dadkaanu yani takoorka iyo yani cunsuriyada ay kaga bixi karaan waxa weeye waa arinta aan soo wado هذا كور أي واحد عدي slave trade كي أفريقيا اللي جسوا أرورين جري أي واحد اللي جاي ودمد يوروبا هي ودمد أمريكا كيونايتد ستيتس أوف أمريكا مركب واحد شرينين للي يرى أو slave trade ذاتك ودمد أفريقيا اللي جسوا قاضي مركب واحد كل حارة وكاها كنيسة وين أكون الله ذلك أمريكا وأنا قرنية دي هوري slave trade ninkii على كل حال مقرنيسا شقو هلاي وحالي شقن كسينينا ميل كنيسة وين أيا وحالي شقن كاسينينا ninkii aad buu u farxay shaqadii buu bilaabay waa dhul xarin markii waxa waaye kaniisada ayuu nadiifiya isagana waa nin la leeyahay waxa iska leh yani baadariga ama maqranaysa ninka kaniisada madaxda ka ah ayaa ilaahay baa wax leh isaga iska leh على كل حال مركا كنيسة واجي هوري مشري مدون علمي ولقوا برتسيد كيمستري يا فيزيكس يا ماتماتيكس يا مقرنيسا يعني مشري هل ما ذكرية يا كنيسة ودمد يوروب لقوا برينشري يا أمريكان ما درسنا واحد إرادة فيلوسفي معناتها معناه ده فايلو وحوي واجعي صوفيا وحوي وعلمي واللوف of knowledge واجعي كعلمي فيلوسفي مركا مادوين كاسا لغو برينجري كنيسة يوروب على كل حال مركا نين كان يعني كنيسة غلاسكا داد عدانا فدي سيغا لوما اوغرا انو سو فريستو نين كان مادو مركا وحو يستاغي جيري شباكادا مركو يعني كنيسة اسو حاغو مركا وحو دغيستا دروستا لا قادانايو مغرانيسا اي فلسفيه دو دغيستا سو دغيسنا نين كان دروستا مدو مغرانيسا 2 سنه iyo bar markuu dhageysanahay دروستي فلسفية دا مركو دقيسيني مدة لبا سنة إيا برأة أيو مقارنة معلم كيف امتحان بالقاضية مركو سيدا دراد دو حالا يدين كرر بابو يري إنا عاد مقارنة لبا يسبعوك بعدي امتحان كو يسو ديار قرودان امتحان كيف يمدن أرضو ديودان مركا ننكي إساقا مقارنة كنيسة تشوغي أو بوبكا يمدحدا وابو يمي مركا سوحو يري سير وحن ربا امتحان كإنا نقلو markaas waxay adigoo nin madow ma waxaan ka bixi kartaa philosophy muwaaranta adiga man nin madow ba waxaan ka bixi karaa markaas waxa laga yaabaa inaan magaranaysaa aan ka baxo wana aan aqaana imtixaanka aan galo marka okay buu halkeen shabakadan ka dhageysan jiray wixii meesha shabakada aad ka dhageysan jirtay I will put to you a chair and table كرسي الناس بنقول جاية and I will bring you the pamphlet and I will bring you the pamphlets of the exam waxaan ku siinaya waraaqaha imtixaanka ee halkaas magaraysa marka ardaydu imtixaanka ay galaan halka fariisay imtixaanka gal shabakada kursiga ma soo dhigay imtixaankii baa la qaaday imtixaankii markii la qaaday macalinka usbuuc ka bacdi waa uu soo saxay waa yimi isagii buu yiri halkan istaag buu ardaydii dhan buu yeeray markaas wuxuu ku yiri it is very amazing waa wax la yaab leh I never come across such this. It's incredible. أردت وحلا what happened بالليل معلن محدعي. مركز وحو يري مركز سجى مقع أبو لبحي وحو لبحي واشنطن لبا واشنطن هجرة مدوا جورج واشنطن أو مدحويني ورد لك أمريكا يسوون واشنطن بول لبحي من كان مدو
Markaas wuxuu yidhi Washington he become one of the brilliant students in the university for philosophy and he get the highest mark, highest degree. درجة ugu sarreysay ayuu helay. Kulligiina waa idinka darajo sarreeya. Ardadii marka waa yaabeen. Bas marka intuu u yaray wuxuu ku yidhi nin dhageyso maanta laga bilaabo. You are not a slave anymore. Aniga ma garanaysaa iima tihid buu yidhi ma garanaysaa. Yeah, I free to you waa ku xoreey. Maanta laga bilaabo waa ku xoreey. Mid kale waxaan kugula talinaa kaniisadan in assistant ka noqotid. Markaas wuxuu yidhi no maya. Ma rabo inaan kaniisadan assistant ka noqdo. Waxaan rabaa kuwa ma garanaysaa ilmaadeeradaya oo beeraha fala kuwaas inaan wax baro. Okay buu yidhi. Kuwii beeruhu isugu yeeray wuxuu yidhi wax soo arooriya sandaqadu dhisay. Sandaqadahaas wax ku bari jiray cuntadana iyaga u keeni jiray. ilaa hadda adduunka dhan baa ma garanaysaa sandaqadahaas iyadoo jaamacada oo dhisan boqosho loogu soo taga. Okay, midda kale haddana ma garanaysaa imtixaan waxaa jira la yiraahdo easy English. shacbiga nimanka aqoonta sare ee Mareykanka ayaa imtixaankaas gala. Cid kasta ma gasho. marka ala kulli hal waxa la yiri California lagu qaaday California u tagay nimankii u tagay ma garanaysaa kaniisada madacada markuu xilay imtixaankaas aan raba inaan galo. ويابن ما قال كرتيد بالليل شهادتي بالله صباحي فيلسوف بالليل إنك وانا إنسان هالك بالليل امتحان هالك سلوك امتحان كيف وقال he become the first highest grade in the exam نينك وقصر رأي أيون نقطة مركز واحد الشهادة وحال وقصينا نيويورك نمانكي مقرنا نيويورك مركي اللي تجي يا نيويورك مركي اللي تجي نمانكي وصاص عدا نينك دارد دمركو كيسو دقي دارد بالصارة دارد دمركو كيسو دقي نين عداني يسوق ينا واشنطن لينا نين مدوه كصباحي he was the first black man ونينك يقول ري أو مدو أو كنيسة أو مقاسة مقالة نيويورك يسوقلا ويا بالحيوان محينين كان مدوقة واشنطن نين عداني يسوق ينا بتكلم على عوها الكسي حيننا ولا الدلاية عوها كليها الكبر مسيحنا على كل حال مركو على السوق هذا ملبا كان هوتلا وحال يقول لك اسكت سيحو نبقى لوكا اوكي وين مي وحال يرمش عاو اسكت سيحو اوكي على كل حال ماشي ابو سيحدي بس مركا جاكدنا والو كان دريس مركي والو كان دريس وشهاده مركو قادني على كل حال هلكا اسكتشو بري انا ku qaadeen lama saxabino intuu soo baxo meel baarkii weynaa ku soo galay oo dadkii oo dhan ay wax cunayaan meesha soo fariistay meesha markuu soo fariistay waxa jira niman la yiraahdo KK gangs oo magaranaysa dhagaha dalashada dhar cadna qaata oo dila dadka Mareykanka ee sharciga Mareykanka ku xadgudba saddex nin baa soo galay mar allaala markay soo galeen buu ninkan baa arkay what are you doing here maxalkan ka sameynaysa ala kulli xal magaranaysa marka wadamay ala kulli xal magaranaysa maxad meesha ka sameynaysa baa leeyahay Soomaalida garan marka waxa la yiri maxaa lagu keenaa chicken baa loo keenay half chicken waxay yiraahdeen if you eat this half chicken hada cuntida niskan chicken hada cuntid we will eat you the way you eat ya sida aad cuntaan ku cunayna waa ku dilayna waay ala kulli xal magaranaysa okay buu yiri is that a promise ma ballanba ha ballan waayale chicken kiibu intuu qabtay buu shumiyay markuu shumiyay buu dhigay shan nin oo bastoolada wata gadaal ka soo kacay saddexdii gangiska habay bastoolada ku qabtay stop bale you can't talk with them ma taaban kartaan bale halkaas and you should kiss him at the face halka ka shumiya saddexdood intay sabagaleen ninkii madooba halka kan it is the first black man kissed by the white waa markii uu reesonin cadana yani ay halka ka shumiya marka barnaamijkan waxaan u sameeyay waa cilmi aqoon maxay ninkan aqoon buu ka soo baxay waa maanta aad buu mahadsan yahay maanta kii speakerka Dr. Abshir Ursame Jamac qodbadiis halaas ay asaga insha Allah ku soo gabagabeyn doona waxaan ku wareejin doonaa awokaati mahad iyo Professor Abdulqaadir oo inoo soo gabagabeyn doona barnaamijka haduu Allah ugu dilay karaan waan is caawinaynaa markii ay barnaamijku noo dhamaado howl badan baa taalo marka waan is caawin doonaa insha Allah ku soo dhawaad awokaati walaalayaal waxaan jeclaan lahaa waxyaabo ugu waaweyn oo hadda Abshir iyo ururkan ku taageeri karno waxa weeye waa dhaqaale marka in Abshir ururkiis member laga noqdo wixii hadda la siin karana oo tabarucaadna la siiyo qofkii konta ama 100 goon kara ururkiis inuu u gooyo inaad isku daydaan oo asaas samaysan kula anu maanta waxa ugu talagalay inaan kun ugu deeqo kunkaasna ma aragtay haddii ay yidhaahdo adunkuna qofkii awoodo mobil been ugu shub
haddii si kale member looga noqon kara looga noqdo intaasaan rabo inaan insha inta laga qaadi maayo maxaa yeelay aniga hawl badan baad noo qabataa ma garanaysaa adiga contributionka hawsha aad noo qabataa ka muhiimsan إن شاء الله ولكن فريق قف كستو Soomaaliya ku soo bari open for every person برنامجك waxay noo soo gabagayn doona walaalkan Cabdiqaadir Professor Cabdiqaadir Cusmaan إن شاء الله كل سؤاله وحي la qabay informationkii arinta ku saabsan aad iyo aad ba u hesheen dad fara badan oo kala duwan ba ka soo qayb galay marka ku soo dhawow Cabdiqaadir Cusmaan gudoomiye aad u mahadsan tahay madaashay وعبار وعبار على الجو مركا ودياش ومعزنتين سوق الدلقة في سوق مشان أقل كعب متقنا أقل كعب الوايت هاوس أمريكا يعني ضد الدومة وأفريقيا الدومة واقع سهنجرين باقس والله صعد أنا وحين بس هذه قرن نجي وحين يكون يتطور بقول إيه رئاسة الوايت هاوس أبراهام لينكولن dadka ka sii horeeyay laakiin aqal kaas waxa lagu dhisay dad Afrikaan oo madow ah marka Obama waa nin madow aqalka asaga madaxweyne ka noqday marka adduunka horta ilaaha u taliya tilka al-ayaam nudaawiluha bayna an-nas marka cidda wax xukumaysa iyo cidda maaragtay waxyaabaha ilaaha u yaalay kamid yihiin marka annaga waxaan u baahannahay fiiri annaga waxaan u baahannahay professor Manajoga professor Maxamed May Manajoga okay laakiin Xuseen Wadaad waa naga baxay okay aad iyo aad horta waxaan u mahadinaa professor May wuxuu joogaa Canada marka saaka wuxuu kacay afarti Canada waa waqti dheer marka waxaan kala deganahay laba meel aad u kala fog marka professor May xikmad weyn uu kordhiyay macnaha waxyaabaha waa muhiim لكن dadka in laga dhiso dhaqaalaha waa muhiim in dad la adoonsanayo daar garab la rarto masaakiinta lama يعني nin la saaray hada aragti waxa dhaqaalihiisa wax sikreeya marka professorka xamara isku baranay waa intellectual waa dadka intellectual galdo oo xuriya oo maarag jaamacad uu sameeyay waa marka waana niman waaweyn inaan ilaashino waa dadkaas yani inaan professor Mayo kale iyo Hussein iyo Abshir iyo dadkaas waa dad wax soo bartay oo aqoon leh luqado badan ku hadla marka inaan ilaashano marka professor waa ku mahadinaya aad ku mahadinaya mid kale waxaan rabaa niman inaan sheego maanta waxaan ka hadalnaa arrimaha tolka arrintaas waa muhiim professor Djiboutian waxaan rajaynayaa inuu caafimaad qabo oo Djibouti joogo baa wuxuu ii soo diray dictionary magacaygu meelaha ka helay marka dictionary ii soo diray waxaa la dhahaa Salah professor Salah Arab Allah dictionary uu soo diray af Soomaaliga qaamuus waa kan ugu qiimo badan arko meesha marka tolkan fiiri list dheer oo waxa jira tol ah ilaa 8 uu qeexaya marka waa badan laakiin annaga laba naga khuseys tol wuxuu leeyahay mid tolka mid waa ka dhalatay oo xigta iyo xigaal iyo maaragtay tolkaas biologically abaha iyo hooyada iyo marka genealogy waa lagu yiraahdaa Ingiriiska kaas amaris nasabna waa la dhihi karaa marka midna waa kaas weeyri marka midna wuxuu yiri waa tol kale tolka waa isaga u bixiyay waa dadka awada degantii oo maaragtay waxay idin ka dhaxeeyaan oo maaragtay dadkaas kulama dhalan diraan anaga markaa hadda oosan deganay Soomaaliya Denmark ree oos waa nala tol dictionary-gaas daa fiirsan xitaa cilmiga adduunka daa fiirsan dadka reer oos hadda Danishka ah oo cilmi walba leh ama meel dadka meesha deganta dadkaas joogtaan sababta waxyaabaha meesha ka dhaca oo idinku wada dhacayaan marka labada tol ajir ani cilmi ahaan arrinta waa u bogay yani marka labada tol marka qaar hal kala saar ma waxaan ka hadlaynaa kii nasabka iyo aan ka hadlaynaa mise waxaan ka hadlaynaa tolka hadda maanta meesha aan ku fadhino intana hadda tolana workshop-kan iyo wax qabadkan tol ku nahay marka labadaas inay muhiim tahay baa muhiim point kale jira asagana muhiim ah oo raba inaad la qaybsado tolkan kale oo mara nasabka taariikhda adduunka ay inta akhriyay iyo intaan dad cilmi la dhageystay meel ay ku qoran tahay oo horumar ay sameeyeen kaligood ma jirto ninkii book ii keena dad tol ah oo isku abtirsada oo genealogy baa xadaarad sameeyay wax xadaara leeyahay xadaaro development leeyahay hay keena bookkaas ama qoraalkaas ma taariikhda kuma jirto Irishka waa dad badan oo isku dhex jira dadka Mareykanka xukuma waxay arkeen ku yeelo laftigoodu originally waxay ahaayeen kaba tolayaal
ما قرأت ايرلاند بيك التحين واجي دباتو اي كان عربي ما انت لان مصر ما امريكا waa la ogyahay laakiin Irishka waa qowmiyad weyn waa fiiri annaga waxaan rabnaa dad nasab sheeganaya oo meel degan beerma malaayiin ha ahaadaan oo xadaarada sameeyay quraanka akhrin kartaan meel kale inna wajadna aabaana fiiri quraanka waa mamnuucayno inna wajadna aabaana ma ku aragteen quraanka inna wajadna aabaana maxaa laga wadaa maqal waa wixii وجدنا من آبائنا ووحي أنجا ووحي نسب كنوسك ما مرة البواي تاريخ العصر ده يتيه هراء قديم كوميتشرتو رير كهتيمان استاجان ويأبتر صدان ويرهدان حضارنا سميننا مس سمين كرا وقصب إن اللي مادان وعلى يراهدو تذكر وأنا كنت رسومان وأنا يتلك وشيء صالح عرب تلك ونوش شيء وتلك جود وأنا سميان وأنا يتل صوماليات راديان وأنا يتل أفريقيان راديان وأنا يتل ما عرفت بين آدم راديان تلك النوع عسو كلام مركز راديسيت بحضارة لكسبي حضارة هادون كجيرو ننتي قراء مسمين تل مسمين وعن كتب قبيلها يعني كتب مسلمين أتيه نبي قال صلى الله عليه وسلم قبيلك وكذا شيء وقبائل قبائلك وجودها بدن وهو وين وجناس حوك البيعان ولا قد حصاري نبي ما قلت وأنا لسه عطان نبي قال أيه وكعر نبي قال مدينة مركو قال هاي وكعرري قبيل وكعرري طلقة ليش يجي وكعر ما رجع ركوب بحثي بن مطلب عبد الدهالي هذا الروح حولها وسكري وهذا علوس وحوالها لو كبقي لكن ولا دليل مركا كبح المدينة هذه تذكر رادينا يا مركا دايرين باشا عبد الملك إنه هوا ملنا مركا ماشان نوعي هو تلك واسكا أوكي لكن تلك يعني لور رادين دولة نمو يعني لور رادين حضارة تاريخ لكم هنا مركا برنامج هو سوق جوابي وحرب أنا هاد عليا لما أنت كقيب قادتي دكتور أبشر وضدك هوري وحصوبرتي طبعا فيري meelaha aan nimi anaga markana lagu bahdalo oo aan shaqooyinka dadka loo diido ama qof kale ma aha anaga inaan bahdalo dadka macallin anaga markuu abshir noo yimi uu abshir wuxuu ka hadlay human rights equality wuxuu ka hadlay progress Somalia workshop baan kula samayn karnaa baan waana la sameeyay marka just the danish dadka oo meel maraya ba qofkii waxay ka dhigayaan jeebkiisa ay abar ka dhigayaan macnaha ma aha inaan jeebkiisa abar ka dhigo waana jeebkiisa ku ridnaa marka anaga waxaan loo baahan yahay إن النقطة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مركب أبشر إنه جالس النقطة تسكت كعلي. إنه كل كنوع أنا يلو حرت. وأنا كل جينا. مركب حلوة هاي وأركي أبشر وكهلا هي شرر قبل ليسي وحاس ومركب قاركم ميكروفون اللي قد فاي. مركب واحد كلامها معناها dadka ayaga is urursanay dadka markay is urursadaan abshir marka terminology waxa la luqaddu ku hadlay abshir waa ka duwan luqad cilmi ku hadlaa badan dadka ma fahmaan marka waxa loo baahan yahay moralka inuu ka jabin asig ama anaga oo sameeyay jabin oo la istaageero ma garan marka gudoomiye waa mahadsan yahay yani mahad oo maaragtay waa mahadsan yahay barnaamijkan ninkii isku abaabulay oo diyaariyay ma baxay mahad ninka diyaariyay barnaamijkan oo abaabulay dr axmed jibriil waa aad buu mahadsan yahay marka fundraising loo baahan yahay macallinka doctorka Sweden nooga yimi Hussein oo khibrad dheer leh oo haddana wadankii jooga kana shaqeeya Sweden ka shaqeeya inaan ku xirano asagana aan la shaqeeyno marka nimayan waxaa loo baahan yahay inaan cilmi ku shaqeyno annagoo familiyada ka tirsannahay kama bixi karno kulay familiyada waan ku dhagan yahay waa kolo kale laakiin inaan shaqeyno annagoo familiyada ku jirno oo aan ka shaqeyno justice iyo xaqa iyo horumarka inaan ka shaqeyno marka workshopka xigay kula barnaamijka aan qaadanaynaa marka mar labaad Cabdi Xasan iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Askar oo raggaas dhaqaalaha bixiya waa mahadsan yihiin mar labaad waxaan ka codsanaynaa maadaama ayaga khasnadihi ay hayaan inay abshirna lacag badan ay ku dhaqaalo badan ay ku taageeraan maadaama hadda professor May dadku waxay yiraahdeen dhaqaalaha kor loo qaado marka meel dheer intaan aadin abshir dhaqaalihiisa aan kor u qaadno waa mahadsan aad iyo aad baa mahadsan tahay qaadir insha Allah barnaamijkeena intaas ayuu caawa inagu ekaan doonaa